السلام عليكم أصحابتي دمانتي وان السلامين نسولي وين يا ولا ليال ويلكم بان إذن ليهاي إن مانتا إن يرو دقدقة بان أصوغ غلاي وحيابا يا إسبدلي إن مركا سولي وان إن ليهاي دمانتي ما شاء الله كما دايرانا إنو وقت بدن كما قادنا إنو وايا إن مهمة دا أيينو كراعينا سيدي صاحبة دي ورين ترتي أدبان الدين سلامة يا دمانتين ان سيليهاي ايش اسير ooyeysa ii dulqaata nabad ma jirto anagu nabad baan ku seexano ku soo toosanay laakiin nabadda ka maqan walaalaha iyo hablaha iyaga dunida dacaladeeda jooga siiba dalkii Soomaaliya ma aragtay nabadoodii naftooda u baqanayo hooyooyinka masaakiinta adan yarta kuwa aan meelo lahayn guryo waaweyn عليكم السلام soo dhawaada asxaab kuwa aan lahayn guryo waaweyn iyo geerar waaweyn iyo dayrar waaweyn oo dhaadheer iyo askar ilaalinaysa iyo muxuu ahaydeen gawaari waaweyn oo laan cruisena waxa loo hadlayaa dadka masaakiinta ah loo soo dhacayo haday cariish dhisteen ku nabadgelin kuwaas ayaan anagu u hadlaynaa waxaan u hadlaynaa kuwa masaakiinta ah ma aragtay laga dafaayo suuqyada meesha doonta ha ahaatee ama been loo sheegaayo ama iyagu meel iska maraaya ama meelba loogu yeeray tagayo nabad kaga soo noqon wali la ay walaalayaal waan salaamay dhamaantiin soo dhawaada asxaabta qodobada aan dusha ku soo qoray waad akhrideen baan u malaynayaa horta waxaan doonayaa inaan weer cas u wada xidhano محمد حمدي geerideedu kaligeed may ahayn iyo kufsigii dilka loo geystay laakiin waxa weeyaan mid inaan walba Soomaaliyeed meel walba joogto dunida dacalada ku saameyn karaya ta ugu sii aadam qashada kululna ay tahay qof dalkeedii joogta inay yaro dalkeedii joogto ubax oo kacaan oo soo kacaysay in ma aragtay lagu la kaco jirdil afduub baqdin terrorizing oo la dilo eego ku durbay caayay waa mooriyaanti muxuu ahaydeene waan bloogaya qofkaasi waa kuwa hablaha kufsadaan u malaynaya kaasi laakiin أصحابي يدك جواب قفكاسي محو هيداني كما جيساني أجنده هيغا وحان دونيا إنان كهادلو ديبك لو جيساني يو دانيرتي مساكينتا محو هيداني عدكود ميردير آنو غارينين dumarka soo baxaya banaan baxayaasha ahaayeen waxa weeye dumar u doodaya danyarta masaakiinta ila dhageysta mudaharaadkii Muqdisho ka dhacay iyo sida loo galay dumarka masaakiinta ah muxuu ahaydeenay u banaan baxayay walaaladeen كان waxa way kufsada waynu blog gareynaynaa laakiin se dadkeenu ka ogaanaynaa iyo report gareeya page-kiisa ninka Cabdiqaadir Saalim wata waan blog gareeyay ila dhageysta dumarkii mudaharaaday ee soo baxay ee banaanbaxa sameeyay iyagoo kala hadlaya sababta ay u soo banaan baxeen dhamaantiin asxaabta بليز شير قرايا عدكنا قابن ميل دير بو قاريا إناقا عدك شعبك وحويان يان لأورانين محاكا عقالي يان لأورانين قبيل كاسمتهيد يان لأورانين دمرك محو هايدين اوهيلي محو هايدين إنما دي كفسيقا جيستي وحويان نينكا walaash kufsaday waxa weyneen ilmaha kufsanay baritoole maaha qof mujtamaca wax wanaagsan ku soo kordhinaya oo qofku Ilaahay xukumay ogtahay sharciga Ilaahay ka soo saaray ila dhageysto hablaha walaaladeena حمدي محمد فارح أنا وحنا حمدي ديد وحلا يرى دا فارح على لها وحنا دش محمد فارح ولا شيء ساعة قبل اللي دليه دا وحياني مسكينة واحد جرت عدال درن ولا سماه قبل اللي والد دليه دبق على قصة طوري وحيد والله كفصلي دبعتها لوجستي دبقي نجي لها بليسكا قبل أنا باور كقارن وحي جايين دارو شفا markii ay geeyeen anaga waa galabtiga markii nala soo numberkeedii anaga la soo wacay adiga ala kulli xaal markii gabadhii meesha geeyeen biliski meesha geeyay gabadha markaa u tagnay waxayna dhaheen gabadhan dabaqaas laga soo tuuray anaga ayadoo meeyda halkaan aan soo dhignayna dhaheen anaga meesha waa ka qaadnay CID dan geynay CID da waa ka qaadnay waxaan geynay meesha la yiraahdo Istal Madiino baartaanada markay soo dhamaadeen gabadheedii shal subaxdii aan duuganay ninkii biliska ee ilaa gabadha dabaqaasay ka soo dhacday oo biliskii baawrkooda lagu qaado oo meesha lagu geeyo waxa ayaan dara ah
inuu saaka VOA ka yiraahdo ma cadda gabadhu inay daba ka soo dhacday gurigii dumay ay idin soo tusi karaa gabadha ku dhacday waxaa idin tusin karaa dadkii eelka ku soo kor dhacday oo dhaheen balkoonkan ugu soo dumay aan dhahnay aan idin tusin karaa idin geyn karaa ma fahanteen cadaalad hadda marka anaga damiirkeena iyo aan muufin aan lix qofood habeenkii koowaad waa la soo xiran oo dhahay habeenkii koowaad waxaana la yiri lix qofood idin xiran oo la soo qabtay shalay markaa u nimid waxaana la yiri afar qofood idin xiran afar meel labadii kala aaway fahmi kartaa haddana saakin markaan ka maqalnay meesha VOA-da aan ka maqalnay ninka oo hadlay oo biliiska markii aan maqalnay hadalkiisii damiirkeena iyo shucuurteena marka inaan muujino damacnay waxaan nagula soo dalbaday askar wayna dileen wayna jirdileen wayna laayeen xabaday nagu rideen wax walba silac waana dileen askarti waana dileen haddana waan xira gabdhaana naga xiran markaa meesha hor istaagnay oo shucuurteena muujin rabnay oo mudaharaadaynay wayna hor istaageen mudaharaadku wayna hor istaageen cadaalada rabnaa xamdi cadaalada rabtaa gabdhii bustoolada lagu garaacay nin oo mas-uula gabadha inta qabtay oo baabuurka lugtiisa ku dhuftay ayadoo wiifaysa ma fahanteen oo laami ku dhex qaawiye cadaalada rabnaa cadaalad wadinka arkaya muxuu haydeenay lix qof baa loo xiray baa layidhi markii ugu horreysay walaale xamdi allah u naxariistee markii dambena afar baa la hayaa baa layidhi warar badan baa laysla dhex marayaa waxaa la yidhi afar qof weeyaa imika lix may ahayn inamo Facebook soo dhigin waxay yidhaahdeen muxuu ahaydeenay oo askar ku jirtay xarunta booliska oo doonaya in la qariyo identitygooda qaarkood waxay sheegeen in ma aragtay raggii la bedelay labana qof madaxi kala baxay laba wiil oo kuwa kufsiga geystay nin madaxi kala baxay haddaba waxaan doonayaayoo kale inaan isla eegno vow idaacadda vow inantu ka hadlaysa waxa weeye waa voice of america waxa idaacadda af soomaaliga qaybta af soomaaliga ee voice of america BBC da meelo badan inanta ataynu abtigeeda ha waa laga waraystay laakiin isagu waxa uu ka waramun xaaladda guriga sida uga baxday waxaas iyo bariga markaa warmay haynin waa maalinta warka uu cusbaa imika weli baaritaan baa la hayaa sheekada waa la bedelo waxa la yidhi inanta guri ayaa lagu kufsaday u dhow oo xitaa hoteelkii waa laga bedelo waxa la yidhi hala badbaadiyo muxuu ahayn hoteelka inamada kufsiga loo haysto la yidhi way geysteen nin cidahooda ah ayaa iska leh baa la yidhi hoteelka inanta laga soo tuuray markaa sheekadu inay khalkhalsanta halkaas shacabku ka og yihiin baaritaankiina dee wax loo daynaya dowladda laakiin dowladdii ninkii askariga ahaaye baaritaanka soo sameeyey haddii laga sarreeyo oo dee kiiskii uu soo qoray la bedelayo waxba kama qaban karo waa bini aadmi laakiin sidan sirta ah usii daynaya xaqiiqada jirta dee waxay caddaynaysaa shacbiga soomaaliyeed inaanay keli ku ahayn shakiga maaragtay jira inaanay meeshaasi cadaalad ka jirin ama altarin lagu samaynayo cadaaladda bedelaad lagu samaynayo wej kale loo samaynayo taasina waxa weeyaan mid dad badan ka dhiidhiyeen baarlamaankii maanta muxuu ahayn golaha baarlamaanka parliamentarian badan ayaa muxuu ahaydeenay sharciyo ka hadlayay ka doodayay waan dhageystay qaar badan baa taxsidii soo jeediyey oo yiri warqad degdeg ayaan qoraynaa waxaan doonaynaa in arrinkaasi lanooga warkeeno sida ugu dhaqsaha badan le iyagoo carabka ku dhuftay qaar badan inay yidhaahdeen cadaaladi ma jirto waxaanu doonaynaa in war buuxa lanaga soo siiyo arrinkaasi iyaga oo de shaqadoodu toos ku tahay inay sharciyo dejiyayaal yihiin iyo amendmentka waxa loo yaqaano bedelaada iyo hagaajinta sharciyada socon waaya ama sixidooda de maxkamaduhu waxa weeye xubin entity dowladda ka mida laakiin ka madax bannaan laakiin sharci u gaara le oo qabta u jiro waan eegay baarlamaanka muxuu ahaydeenay shuruucda ay soo qoreen ee ah dastuurka qaranka soomaaliyeed maxkamaduhu waa entity gaar ah oo ka duwan oo ka madax bannaan muxuu ahaydeenay baarlamaanka iyo xubnaha kale dowladda laakiin xeerar gaar ah oo lagu qaada ayay leeyihiin qaadiguna waxa weeye maxkamaduhu waxay u furan yihiin shacabka inay tagaan ay soo dhegeysaan kiisaska haddii aanu qaadigu xidhin kiiskaasi isagoo u baqanaya amniga muxuu ahaydeenay xaqiiqa soo bandhigayaasha ama witnesseska dadka loo yaqaano ee soo bandhiga xaqiiqada ee wax ka ogaa kiiskaasi haddii loo baqanayo amnigooda iyo nabadooda qaadigu wuu go-aansan karaya
oo xoog buu u leeyahay qaanuuni ah inuu maaragtay xidho maxkamadaasi kiiskaasi uu maxkamadiisa xidho oo aan shacabka loo ogolaanin oo uu secret ka dhigo taas laftarkeeda dee qalalaansa ayaa ku iman karaya muxuu ahaydeen haddii maaragtay faragelin badan lagu hayo oo dee loo daynaynin qaadigii caadilka ahaa maaragtay inuu shaqadiisi qabsado ama la horkeenayo kiis already lasoo bedelay oo xaggii baaritaanka laga soo khalday dee dhinac kasta inaga way naga haysataa xamdi keliya inagama maqan hablo badan oo walaaladeena way naga maqan oo caruura ku jiraan oo waxaan ka wada damqanayno please share gareeya codkiinu meel faar ah buu gaadhayaa baan ka wada oo fair ah waana layna dhegaysanayaa markaynu wada kacnay ilaa shalay toole ilaa muxuu ahaydane daraa toole habeen hore waxa weeye dowladdiiyo ka hurday baa kacday that means macnaheeda codka shacabku meel weyn ayuu gaadhayaa waa inaad ka doodaan waa inaydan ka seexanin waa inaad tustaan inaynu dhegaysanayno inaynu maqlayno inaynu la soconno inaynu intelligent nahay inaynu doonayno nabad sugidda dadkeena masaakiinta ee dalkii jooga saaka waxa lasoo wariyo lasoo sheegay weli yaro 10 jir in isagana la kufsada askar kufsadeen oo gurigooda loogu dhacay oo taasina nabar iyo naxdin dee waaban kici kari waayeyba ay ku dhacday waana wax laga naxo runtii muxuu ahaydeene waxaana sorry waa uhintii hooyooyinkii bannaan baxay waa jirdilkii iyo oohintii jirdilkii hooyooyinkii bannaan baxay ee u bannaan baxay xamdi waa la garaacay peaceful protest bay sameeyeen banaanbax nabadoon abay sameeyeen soo wicitaanka iga daaya asxaabta please suga iyarkaadi intiina daawanaysa banaanbax ayay sameeyeen muxuu ahaydeen ay ku muujinayaan shucuurtooda damqashadooda isbedelka muxuudan kiiska inantooda amnigoodii naftooda iyo noloshoodii caruurahooda u baqanayaan haddii ay laamiyada xitaa istaageen in la haga aheedo la yidhaha wadooyinka ka baxa xaggaa istaaga xaggiina muxuu ka protestgareeya muxuu ahaydeene idaacaduhu inay kasoo tabiyaan qaar fara badan ayay ahaayeen oo meel walba oohintooda qayladooda ka dhacdo peaceful protest in laga horjoogsado may ahayn in la jirdilo may ahayn in la xidhxidho sharci darro lagu xidho may ahayn in la caburiyo afka la qabtana may ahayn mana aha midaanu ka aamusayno waa midaanu ka hadli doono mar kasta oo aanu soo bandhigayno caawiyo beriya saa dambe inayna banaanbaxaan weeyaan inta ay kiiskooda ay meel ku ogaanayaan wanaagsan inuu marayo ama ma aragtay dowladdu ma aragtay ay u soo jeesanaysay arkaysa in la eegayo oo meel walba laga daawanayo oon meel walba ka hadli doono waxa weeye in ma aragtay loo istaago weeye hooyooyinkaasi hooyadan inankeeda yar la kufsaday guriga loogu soo dhacay annaga xalay habeen bay noo ahayd waqtigeena waa kala duwan yahay duhuradeeni camal ay ahayd baan malaynaya casarkii meelaha annaga waqtigayaga ayaa loo soo dhacay rasaas baa lanagu bilaabay bay tiri dhegaysta hooyadani weliba raggii laba nin bay ahaayeen midi qori buu sitay oo gurigiibuuba dhex seexdo lagu qabtay isagoo sarkhaansan baan u malaynaya oo gabara tiri bal ila dhegaysta gabadhan waxaanay tiri waan qaadeen stationka geeye inuu khamri yahay baan u malaynayaa waxay tiri isagoo qaawanoo jiifo qorigii ag jiifa ayaa la qabtay oo hurda labadii nin kii bilaa qoriga ahaana wuu baxsaday qolkii wuu ka baxsaday marka kiiyo hurdo meesha ku kala dhaco inankii yaraana kufsaday baa la qabtay loona diray isuga bal waa kana u malinaya videoga waa yarteeni taasi meye waa kana u malaynaya maantaan soo dhigay qolkayga facebooka waad ka daawan karaysaan in yar baan isiri bal soo bandhig aniga xitaa duubista kuma wacniso iga raali noqda ma aqaan si wax loo duubo dhegaysta suga gacanta igaga dhacda waxaynu ka warami doonaa dhacdo la xiriirta kufsiga wiilka yar wey I don't think aan si fiican u duubay let me see waa kana miyaa talab maxamed faarax ha inaan masaxay baan u malaynaya gacanta igaga dhacday laakiin sug waan soo heli doonaa waxaan kaloo doonayaa inaan idin tuso in baarlamaanka maanta laga hadlayay oo qaar badan oo baarlamentarianka ay doonayeen inay ma aragtay arrinkaasi wax weyn oo culus laga qabto haddaba qodobada ugu habboon ee aan isiri maanta intii aynu shalay ka hadalnay mooyaane maanta waxa ugu muhiimsan in ma aragtay xoogga aynu saarno
muxuu ahaydeenay la xidhiidhka dadka madaxdeena dalkii joogay dad badan oo aan garanaya ayaa la xidhiidhay madaxdeeni dalkii joogay waayo fiiro gaara baa loo siiyey in ay ma aragtay muxuu ahaydeenay siiyaan dilka xamdi oo matala muxuu ahaydeen amniga haweenka Soomaaliyeed meel walba joogaan Somaliland Puntland muxuu ahaydeenay Soomaaliya kilalka shanaad Soomaalida muxuu ahaydeenay Kenya ma garanaysaa oo xiriha qaxootiga dumarka aad loogu kufsado calaykum asalaam soo wada dhawaada waxaan jecelahay shucuurta asxaabteeda Facebook cid walba leh ee hablaha leh inay maanta soo qabsadaan Facebook oo ay ka hadlaan arrinkani wixii taliyo tusaalaba because inagayna saameynaysaa inaga indhe iyo arag bow ah dadkeena dalkii jooga inaga weeyaan kuwa maaragtay dhiiri gelin karaya inaga weeyaan kuwa oran karaya u hadli karaya shalay markay ila soo hadlayeen waanigi lahaa magacaaga iyo meesha joogta ha sheegin ra'yigaaga ka dhiiba waxa aad doonaysaa inaad ka hadashid muxuu ahaydeenay kufsiga wiilka 10 jirka ah markiiba inama badan oo social media ku jira way sheergareeyeen wayna ka yaqyaqsoodeen waanay ka muraara dilaaceen runtii waan ku farxay taasi at the same time na waxaan u arkay inaanay garab buuxa siinin qaar badani inantii xamda oo ay dee aan anigu markaasi qudadaysan mooday ama dareenkaygu yiri malaha waxay moodayaanba kufsiga in dumarka kaliyaata loo sameeyey wiil iyo gabadh isma dhaamaan way kala sii xun yihiin laakiin isma dhaamaan isku mid way isku damqad weeyaan isku niyad weeyaan waxa weeye marka arrinka in meel looga soo wada jeegsado raggii labadii nin ee kufsaday wiilka yar waa timarkiiba la toogtay ee tiirka la istaajiyay gabdhihiina weli arrinkoodii baa laga doodayaa qaar waa la sii daayay baa already la yiri oo raggii qaarkood laandheera lagu sheegay inantiina waxaa la yiri naag weeyaan maxay sheegaysaa warniyahow waa la maarayn doonaaye nin boqolle ayaan loo dilin gabar ha la sii daayo laba wiil baa la yiri waa la sii daayay maxkamadaha iyo muxuu ahaydeenay ciidamada amniga iyo police stationada waxaan u daynaynaa inay kiiskooda baadhaan laakiin arrinkaa anigu kuma qanacsanay waxaanan jeclaysan lahaa in ma aragtay lasii ballaadhiyo baadhitaanka oo aan marnaba laga hadhin sharciyo suganna laga soo saaro weli waxaa la isku haystaa xeerkii madaniga iyo xeerkii islaamiga ahaa nin muxuu ahaydeenay baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa maanta ka hadlayo lahaa noola imanina sharcigan madaniga ah ee aad leedihiin gaaladu soo samaysay ee dabada gaalada ku wadataan anaga islaamka ayaa noo fiican dadka islaamka xaquuqda ugu wanaagsan ee qofka muxuu ahaydeenay Soomaaliyada ah iyo qofka maaragtay dulmanaha ee muslimka ah siinaya kaasana anigu taageersanahay mar walba oo aan muran laga keeni karin iyo muxuu ahaydeen dhowr sanaha lagu xukum iyo reeraha ka heshiin doona iyo jeelka laga la baxo damaanad lagu sii daayay iyo sidee damaanad looga sii deyn karaa dad yahow idinka idin weydiiyo qof ma aragtay u xidhan dil waa the worst case qof lagu soo eedayn karaayo halka ingan xitaa qof dil ku eedaysan lama sii daayadee there is no way ha iga soo wicina telefoonka caadiga WhatsApp iga soo wicii doonaysa doodda inay ka qayb gasho walaalo waan salaamaya anigu inamadan ma aqaano qabiilkooda ma aqaano wallahi yarta ma aqaano hadda la ii sheegayay cid lagu sheegay laakiin wallahi aanan hubin cid reerkooda imay soo wicin ugumana hiilinaayo muxuu ahaydeenay qabiil ahaan aniga hadday qabsato waxaan rajeynayaa inay ciduun ii kacdo mar uun oo tiraahdo qoftaas yaan laga hadhin ha laga daba tago muxuu ahaydeenay ciddii dhibtay ciddii kufsatay haddii la rabo in aniga la i kufsado oo la igu soo hanjabay muxuu ahaydeenay shalay toole xaggee joogta adiga aan ku kufsanne adaaban kugu soo soconaayo oo ad arkaysan hortiin in laygu caayaayo oo la ii hanjabaayo la rabo in lay cabure lay aamuso inta cay la ii soo diray privateka ka badan ee dad waaweyn oo garanaya ii soo direen weliba iigu jiran blogareeyoon yaabay ma garanaayo waxa ay sababtoodu tahay laakiin waxa weeyaan waa aamusiin caburin taa macnaheeduna maaha inay aniga aamusin karaan caburin karaan laakiin waxa weeyaan inay ma aragtay weerun ii xidhan weerka casi dumarkaas hooyooyinka ooyaya ay xidhan yihiin baan la xidhan karaa halkaas soo fadhiisan kara maalin kasta yaa iga oohisiinaya aan iyaga ahayn cid kale igama oohisiin karayso xamarna waan tagi insha Allah anytime aan doonayaan tagaya xamar sababtuna waxa weeyaan maaha inaynu baqanno anigu sidaan idiin sheegay ayaan taageersanahay mana walba naag hubaysan cid kuma soo dhacaysa naagow soo iibsada toorey dhexdiina ku xidha kala jeexa kii idin soo agmaray ku taabta
self defense ilaahay ba xaq ku siiyey dal walba kugu raacaya naag laga baqanaya inay hubaysan tahay ka gooynayso ninka ula soo baxa waxa weeyaan lagu dhici maayo wallaahi billahi tallahi anaa idinku leh nimanka wanaagsan ee ninka ahina kugu raacaya rag lama odhan karo kuwa hablaha kufsanaya rag maaha kuwa hablaha kufsanaya waa sarkhaan waa tuug waa ciyaala suuq waa xashiishadoole nolosha ka dhacay waa kuwii inamadu ka hadleeyeen soolo shalay toole fariin baan u diray amarka ilaahay abeenadan fariin u diray private friend requestkayga kumuu jirin maan request garaynin friend listkayga kumuu jirin sorry abeenadan fariin u diray isagaiyo inankii kale ku jiraan markiiba arkay waan soo sheergareeyey qolkayaan kusoo sheergareeyey qof wanaagsan nin wanaagsan oo xalaal lagu dhalay oo edeb leh oo muxuu ahaydeen dhaqan leh oo dalka iyo dadkiisa anfacaya oo mustaqbal aan ka sugaynaa gabar ma kufsado kaas way ka ninka ragga ah waxaan hablaha kufsanaya rag maaha waxaan iyagoo sarkhaansan guryaha hooyooyinka masaakiinta jiingada ku jira ilaaho may geed cidlaa hoos jiifta nabadina ku hesho weyniyadii caruurteeda geed cidlaa qofka hadduu la hoos seexda caruurtiisa inuu nabad ku helo weeyaan markaanu qaxaynay geeda cidlaa baanu seexanaynay dhir cidlaa hoostoodaanu seexanaynay tuuladaanu soo gaadhnaba gawaadhida aanu saarnay dumarkii caruurtii baan yiri yaa la taaban wallahi I don't want inaan karay garaya maanta because indhahay wad arkaysaa inta weli ilaa leegyihiin kamaan soo kabanin tuuladii lana keenaba dumarkii caruurtii baa yimi markaasaa beera lana dejiya markaasaa reeraha deegaankaas ah ay square naga qaban jireen magangelyo buuxda maca raggii nala socday qof aan lanagala harin qof oyna soo raaci jireen oy gawaadhidooda waaweyn hubka nagu soo marin jireen tuuladooda iyo aagooda dhan nagu soo dhaafin jireen ilaa iyo aanu saalim ku baxno oy tuulada kale aan kusii baxno war lanaga sii hordiro ka waran dhulkii markii nabadda colaadi jirteen xamar ka soo qaxaynay ya dhul la isku baabiyo la isku jara xitaa waan soo marnay oo geel lagu kala dhacay oo laba nin geed hoos yaalaan oo meyda oo geel jir ah oo geel soo dhacay lagu dilay oo mara saaran tahay waan soo agmarnay hooyo halkaa fadhido ka ooyso la yidhi labadii wiil ee geela soo dhacay hooyadood weeyaan oo muraara dilaacsan waa lana dhaafiye waxaa la yidhi arrin reero u taagan weeyaan idinku nabad baad ku mari kartaa waa lana dhaafiye ragga geela soo dhacay ragga ka dhacsaday ee raggan dilay iyo hooyada ooyeysa intaba idinku dhaafa baa la yidhi nabad baad ku dhaafaysan waa lana soo dhaafa berigii ciyaal baan hawaan garanaya maantana hooyo caruur yar haysata oo nin la joogin oo lasoo ishaafalataystay ayaa laba askari oo sarkhaansan oo dhacdhacaya gurigii kusoo jebiyeen markaasay muxuu haydeen hooyada xitir daaqadan ka baxay video waan idiin soo dhigay daawada halkan uu yara qolkaygu yaalaa daaqada looga soo dhacay waxay tiri aniga iyo inanteeda baa daaqada ka dhacay inankii yaraa bay guriga kaga tegeen oo malaha miyuu ka bixi kari waaye mise lugahay qabteen isagoo daaqada ka dhacay who knows sheekada waa laynoo sheegi doonaa warbixintu warbaahintu inoomay wada fasirin in yarun bay kasoo duubtay hooyo kilib yaroo gaaban ismay odhanin inankaa la kufsanayaa baan u malaynayaa de hooyadii iyo inantii baa ka baxay meeshii waan kaa qaban doona qofkaas oo isuga dad ra'yigaaga dhiibanaysa hooyadii iyo inantii baa daaqadii ka baxay daaqadaan ka boodnay bay tiri inankii yaraa bay bartii ku heleen ay ku kufsadeen markii dambe xaafadii sawaxankii wixii soo baxeenna labadii nin mid baa baxsaday kii aan hubaysnayn kii kale qorigii iyo kii kaloo dhinac jiifa oo sirwaalku ka baxsan yahay oo hurda ayaa meeshii lagu qabtay ma qof miyir qabo hagaagsan kaas man la odhan karaa waa nin lama odhan karaayo booliisi ciidan oo dhanna looma eedaynayo kuwa soo qabtayba waxa weeye ciidan bay ahaayeen ma garateen ciidanka sarkhaan baa geli kara tuug baa geli kara ibn xaaraami baa geli kara muxuu haydeenay aan matelin ciidanka ma garateen marka waa la soo qabtay dhakhtarka ilmihii la geeyey waa la soo baadhay way soo cadeeyeen cisbitaal madiina inanka yar uu kufsi ku dhacay dabadeetana muxuuna warqad bay usoo qoreen CID da qabatay ninkiina waa la xiray kii hurdaya meesha jiifay waa la xiray marka waxana wax soconaya muxuu ahaydeen waxaynan ka hadalna ay tahay weeyaan dooda waan furayaa way idiin furan tahay I just wanna summarize the point of this quick forum. First of all, I just wanted to talk about the investigation of the killing and rape of Hamdi, Allah yarham ar-rahimin, where at the beginning of the arrests we heard there were 6 men that raped and murdered her, and they were all arrested. And the story has been changing up and down. Now we only heard about 4 of them
in jail, and the other two were released because of politician put a bond on them, like he released them on a bond. Secondly, the second point I wanted to talk about is the beating of the peaceful protesters, the woman family of the victim that were beaten up on the streets and intimidated and got arrested, and that was uncalled for. So we want to make sure that the Somali government bring those who really executed that illegal arrest on the protesters and that beat them up, and we don't want that to happen again. I also want to talk about the 10-year-old boy that got raped in his own home by home invaders, and his mother and his sister escaped from a window, and now one of the perpetrators is under arrest and he is in jail. So other important factors, parliament members talked about some legal codes and the discussion of Hamdi rape, and they really demanded that the court and the police should give them full report on what happened against Hamdi and all the others cases relating with rape, and that they really want to issue proper rules and regulations that they want to make them into law. dad way noo furan tahay asxaabta soo qabsada qofkii soo wacay baan ku celinayaa intaas qodobadaas haddii cid ajnabi daawato waxaan doonayaa in ay maaragtay caalamka gaarsiiyaan because ma aamusi karayno wax walba af Soomaali lagu hadlo luuqo ka baxaya waxa weeyaan idinkuna waa inaad ka soo hadashaan oo aad ku soo turjuntaan luqadaha aad ku hadashaan iyo dalalka aad joogtaan because waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed waan jecelnahay dawladeena laakiin waxa weeyaan inuu caalamka ogaado wax dalka ka dhacaya sida iyaguna support u helaan oo arrimo badan oo xagga amniga looga caawiyo dhaqan celinta horumarinta iyo shaqo abuurida dhalinyarada muxuu ahaydeenay amniga nabad sugidda siiba hooyada iyo dhalaanka iyo gabdhaha amnigooda si taxadir leh loo suro in ma aragtay nabadgelyada habeenkii xaafadaha tuugada ku badan tahay la saxo oo ma aragtay ciidan la dhigto kormeerto oo wareegta waayo ayagu ma haystaan geedhad waaweyn ma haystaan waardiyayaal ma haystaan muxuu ahaydeenay gidaaro culculus oo tuugi sarxaan ka celinaya ma haystaan kaamirada guryaha ugu xiran waxa weeyaan qofka ma aragtay dalkiisa aan ku nabadgelin hadduu xitaa geed hoos seexdo gaajaba ha ku qabato geed hoos seexdo waxa weeyaan in wax loo qabto uu inoo furan tahay doodu soo taagta gacanta haddaan maanta idin soo jiidi karaayo haddii kalena waxaa idiin furan codka sug qofkii soo wacayaan imika eegayaaye asxaabtii ganacsiga dib iigu yara dhiga because arrimo muhiiman hadda ka hadlayaa فريمين الأخرية. السلام عليكم. ها عليكم السلام. دودي بان كوتشرنا ما كقيب جليسة. رج دمر ككلية ما هي كقيب قالوا رأيك كشجع ولو بهاي رجع أنا أريكم وح كشجع. السلام عليكم كوسي دنيا. وعنو ويان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أحسنت هاي برنامج كسيرة وصل بندقتي كل وحوي ودعوين حنون بدن وشحيقو. أيا ما كسر الشمالي بدقت هاي كذا العان مركع. وحضو ما ليس واحد نقول عشوب هنا سنهين لكن وحوي دعي لك هذا الشيء يقص على يحول ينفرد بدن. نفترض كذا عمر عشان قاعد كلا حتى هنا كجران واحد تبيش نسيله وحوي قار كلا كجران بدن. ما حكوشرا. إن وحاليا واحد نفتركوده وادعان وواحد يجري لكن ساق مبضلين لكن هذا الشيء حولي وحدا في كسعدان من قبلي للدلوء ما كفصلوا وحنوري يعني مغلي جينا وكم هذا نفرق حتى لفرح مايني مركا واحد ساس أروح في شو وحياه بدل السوشيال ميديا مركا داركت ضد الدين تعايني وكل وحياه بدل مركا في حسلة حتى والشبكة كله أيا كجرا حتى ماشي نفع وضدك وحن قص بعيوش waxaan ku weydiiyay su'aalan ku weydiiyay xageed joogtaa adigu imka walaalo magacaaga halkaad ku sugan dima noo sheegtid horta dadka ku bartaan ingiriiska joogaanigu magaca maxamed
اوكي محمد سؤال بان كويدينا waxana way jiri jireen bay tiro way dhici jireen laakiin xawli bay ku bateen taa macnaheedu waxa weeyaan dumarkay ku dhici jireen ma waxa nabarka inaan kuun ba ku soo kiciyay mise waxa generally ka xun tahay waxaan ka hadlayaa gabar la kufsado waa dhici jirtay waa dhifi naadir markaas waxa maxkamad baa la saari jiray sharciga dawladda walba sharci buu leeyahay waa lagu qaadi jiray xitaa qof gabar iska dhaafay aan aqoonin oo nin raga hadduu wax yar saa u dhimo gabadhaas dadkii dhan baa garaaci jiray oo dili jiray oo gabadhu milga iyo sharaf bay lahayd ilaa haddana way leedahay in lagu gardaroodo cidna ma ogoleen ma laha milgiya sharaf gabdhaha Soomaaliyeed siiba gabdhaha xamar jooga jirdil iyo kufsi ayaa la isku geysanayay cadaalad darro taas laga hadlaya mana rabno inay noqoto caadadan xun ee ragga saqajaamiinta ee dabta daran la soo bixina inay noqoto wax noqda caado joogta ah sidaad adiguba wax yaro simbala uga dhigaysaad u leedahay weligeed ay dhici jirtay weligeedna may dhici jirin mana dhici doonto waxaan doonaynaa inay degdeg u joogsato horta waxawey ay maxkamadeen waxa ka wadaa waxaan lama wax cusub oo weligeed aan dhicin ma gabar waa la kufsaday meel walba sakarjaan waa dilay weligeed ma faham maxaad kula talin lahayd dhalinyarada wax kufsanaysa walaalo ra'yigaaga ka dhiibo maya waxaan leeyahay de waxa wax loo baahan yahay mala nin walba gabadha waa walaasha iyo gabadhii adigu kula dhalatoo kale marka inaan lagu xadgudbin gabadha ninkii rabada gabadh u bahdana si shifo sharci ah oo wanaagsan inuu gabadhaas u guursado ama يا مهم أنفع شرف كذا ويل عليه إنما مرة بقولي أما هويدي أما مرتي أما يدي مع الغصن. Good. قبل ما دش هذا عرول ما هذا. أنا عرول ما لا قبل لا يولي. قبل لا هذا حاجة شو يعني مك. بس قبل ما جونا. إنجليزي كله شو كان ذلك عيد مكوشو قبل مكوشو كان ولا على ذا هبري راح عدلين عيدون أهل يقرابو. كل واجهنا ها. ما حد كله تلين لهاي كوا. كودا وحدد كودا كمدين إلى أيوة نفس الكودا دكتور هذان وحاول أمضنا النبات قليان أيوة يدق كنا بتقلان ومدة سيدا والنبات قليان يعني محوق يستيقف فيكتام ولا كف صدايو تنهي سراعني نولشيسة ما حد كودا ما فاهمين شيء أنا وحد قلنا هذا شيء فمل كيغا درقنا وإلا دشينا واجوغان waxaan ka hadlayaa oon ku weydiiyey si toosa gabdhaha aad la dhalatay dalkii jooga adiga oo og amni darada gabdhihii dalkii jooga haysata maxaad kula talin lahayd fiiro gaar ah ku haysata Ingiriiska marka iyaga amnigooda dawlad baa ilaashanayso Ingiriis oo maaragtay yaani shuruucdeeda dadku ilaalinayaan oo de laga baqanayaa in ognahay waayo kufsigu waa ku yar yahay dalalkan horumaray ما قرأت مركا دلكني محاد كل التاني لهاد قبلها إيه الكاية أديك خاصة فاميلي قاعد تشوفه. والله يا ريت حكولت لنا يا قبلها شيء ده إني سنبت الكرسي هذا قبلها أنا قام مساكين تقول على كلا إني سرق الراعين إني سنود وارين إني كدك تونادان إن بدل بنقولت لنا. أنا بقول قرينا يعني كاسي أو البلاكهم. وإذن كان مقلة مسكح ذا صار ركبة كان قاعد أحسن وحوي فيكتم بو ذينا يا حق بيقول له ما شاء الله عليه ماشي I don't الدنيا ده إني مرتو جاد هوستي إني ساحته midnight هذا يداني كوك قبضته إني برتعلو جيسو وأنا لكم سنين بحقول له هذا يا إلى أمد أمان جلسوا كلها محيسة ما يسقى بدنا فيكتم كا anyway وده وخصي ننكاسي تاسع إنه هيستطول على إستجا إلهي هؤو خيرها والنبت قلي إهل كيس يا قرابة دي سيها بلهيسة حلو بهاي مسكح مشان إن اللي يمادو حلو بهاي هاي إن ما عرفتي رجع مسكح ذا لها تلصي يعني منتور النقدان أو أي ما عرفتي إن ماذا أصفريستان إن ما بدن أو hooyooyin kaliya kala soo tacaaleen baa jira aabayaashii mar hore ka tagan ama ay ka dhinteen baa jira ama gabar kale ka guursadeen oo ninka caruuriisa korinayaan baa laga yaabaa kuwiisina u dayacay marka waxa weeyaan inaan ka fikirkiisa kuma raacin kamanaan helin sidoo uu hadlaayo wuxuu ka dhigayayba inay gabadhu maartay ee dambi ay geysatay marka muxuu ahaydeenay isaga dooda waan ka saaray muxuu ahaydeenay arrintan xamde ee la yiri hadda ay hooyooyinka ka sheekeynayaan yiraahdeen fooq baa laga soo tuuro guriga ku soo dul dhacday taasi waxay ku tusaysaa inayna dhul ku dhimanin way guryaha way hooseeyaan inaga
fooquna wuxuu ahaa kii hodheelka sheekadii waa laga saaray waxa la yidhi iminka hodheelkii weeyaan ma aha guriga ayay ka dhacday xagga confusionka insha allah dowladda ayaa naga soo jaahil bixin doonta waxaan doonaya habluhu inay soo qabsadaan magacaaga meeshaad joogtana qari waxaanad kasoo qaybgeli kartaa dooda waxaan inoo raadinayaa muxuu ahaydeenay warbixintii tacsidii ay dumarka golaha baarlamaanka marwooyinka ka mid ahaayeen oo aan ka xumahay inaanay si fiican ma aragtay idaacaddu usoo gudbinin taasoo ayna magacyadooda noo soo sheegin oo aan dee jeclaan lahaa in dadka laga barto haddii xildhibaanadaasi loo baahdana si gaara dad badan ay ula xidhiidhi lahaayeen sidii kiiskan iyo kiisas kaloo badan ay ma aragtay xoogga u saaraan oo dee loola xidhiidho sheekh dirir baa ka hadlayay carabkan ku dhuftay shalay toole dumarka qaarkood la qabo ay ma aragtay raggooda xitaa kufsadaan kuwa qaba ay kufsadaan oo markay is afdhaafaan gabadhu ay cadhaysan tahay ninka uu ku qasba inay la seexato xaaskiisa sheekh dirirna wuxuu ka hadlayay arrinkaas isagoo leh muxuu ahaydeenay waxa weeye kufsi gabadha haddaanay ninkeeda raalli ka ahayn oo aanay habbi ku ahayn marka dhegaysta taa wuxuu ka hadlayaa sheekh dirir markani in ma aragtay xagga ma aragtay sharciyada marka laga hadlayo xagga sharciga diiniga ah ay ma aragtay kasoo mar walba ka hadlaan ay isku soo dhaweeyaan sheekhyada ayna kala reebin zinada iyo kufsiga zinadu waxa weeye ficil dhex mara laba qof oo muxuu ahayd caqligooda qaba oo saliim ama dhalinyaraha ahaadaan ama nolol hor ha soo maraane ay isla seexdaan ay wax xun sameeyaan faaxisho ilaahay uu maaragtay diiday sameeyaan oo maaragtay taasna hadhow toole sharciga lagu qaadayo kufsiguna waxa weeye ficil xaqiraadeed jirdil iyo xoogid toos ah loogu bareedhayo qof aan raalli ka ahayn in ma aragtay la kufsado la taabto la molest gareeyo oo ma aragtay dee lagu qasba waxaanu doonaynin oo sexual ma garanaysaa sexual manipulationka ayaa kamid ah taataabashada la seexadka ma garanaysaa qasabka la seexadku maaha in labada qof ag seexanayan naba isku ag seexanayan waa kufsi waa qasbid waa xoog gabadh marka wax laga qaadayo la kufsanayo si xun baa loo garaa waa la jirdilaa waa la bahdilaa waa la marada qasab lagaga saaraa waa la tuuriyeeyaa iyadoo dagaalamaysa oo ooyeysa oo qayliyeysa oo baryo tamaysa haddii doonto ilaahay baryaysa ayaa maaragtay ficilka xun lagula kaca marka shuyuukhda waxaan leeyahay marka ay ka hadlayaan ay naga wacyigelinayaan dhalinyarada iyo ummadda islaameeda soomaaliyeed oo dhan ay ka wacyigelinayaan arrimaha zinada iyo kufsiga inay totally soo kala saaraan waxa weeyaan dad badan baa zinaysta siday doonaanba ha u zinaystaan ama shaydaan ha qaato ama iyagu ha u badheeraan amaba diin la-aani ha hayso ama muxuu ahaydeenay maskaxda ha laga xado ama ma aragtay ha lagu hadido in tasawiro xunxun laga qaado ha lagu qasbo mar walba waxaan dhegaystay sheekhyo badan oo marka ay muxaadarooyin kasoo duubayaan zinada xeerarka sharciga islaamka ee zinada iyo muxuu ahaydeen kufsiga inay ma aragtay muxaadaro kasoo wada diyaariyaan taasi aniga waxay ila tahay wax khaldan waxaan ka jeclaan lahaa in kufsiga laga dhigo violent arrin jirdil xun oo nabar loogu geysanayo qofka baniaadmiga jirkiisa si xoog looga qaato wax isaga casiis u ah ma fahanta zinaduna iyada laftirkeeda way xun tahay waa wax aad u xun oo de ilaahay diiday oo de labada qof xitaa hadday hore nolol usoo mareen dee dhagax ha lagu dili la yidhi si maaragta dembiga kabaa'irkiisa looga meedho ilaahay hortiisana ay u tagaan iyagoo nadiif ah ma garatay iyada laftirkeeda waxa weeye waa dembi kabaa'iro weyn laakiin in la barbar dhigo anigu ma jeclaysto milga ahaan mar walba sheekhyadu iskugu soo daraan muxaadar ahaan sida dhalinyarada iyo dee bulshada uga wacyigelaan waayo dad badan baa sinaysta rag badan baa sinaysta dumar badan baa sinaysta oo aan waxba u arkaynin haddaana cidi arkaynin ma aragtay waxay doonaa iska sameeya ma garata haddii lagu xidho zinadii iyo kufsigii la iskugu daro muxaadara anigu waxaan u arkay dad badan inay u arki karayaan dad badan maaha qof kastoo de maskaxdiisu toos tahay iyo saliim tahay dad badan baa u arki karaya in ay wax iska caadiya tahay haddaad gabar intaad tiraahda kaalay gurigan igula sheekayso kaale halkan soo fadhiiso yaan soomaalidayna arkin oon lagu fadeexadaynina sheekoo le kaa rabaa muxuu ahaydeene inaan si fiican kuu bartaan rabaa uurani makhaayad horaan u aadnay gabadhii guri loogu yeedho oo kale oo is tiraahda wallahi dhib ma lehe ya
kaalayo wiilka iskala sheekayso waad aamintayo waa taqaana ciddooda taqaana everything halkaa marka ay timaadadna kufsigii lagula kaco uu is yiraahdo orer heblaayadii hore dee waa ku yara qasabtayo maya ku tiriyo way ku siisay yaa tanina ku day ma garanaysaa oo arrinkii uu halkuu zina ka doonayo uu kufsi ku kaco dee waxa weeyaan way odhan karayaan sheekhyada qaarkood baa muxaadarooyinkan ka dhegaysan oo waa isku dambi weeyaan waa okay ma ogoli markaa anigu ma ogoli inay sheekhyadu zinada iyo kufsiga marka ay xeerarkoodii sharciyadooda qawaaniinta diinta islaamka ay ka hadlayaan inay soo kala saaraan oo mid walba sidiisa gaarka ah usoo bandhigaan iyaga oon isku muxaadaro kasoo dhigaynin sheekh dirir imika maasha allah wuxuu leeyahay YouTube channel ay ku qorantahay sheekh dirir official channel please follow gareeya aad baad uga faa'iideysan doontaan waxyaabo badan su'aalaad u diri kartaan waxaan rabaa inaan yara dhageysano khudbadiisan oo kamid ah khudbad uu mar hore uu soo bandhigay بإذن الله كريم هذا إنه يرسول تود خطبته أد بودر تاي لكن وحن دوني أتليس أفر دقيقة إيو سقالية تمن سكن أيان كقبل عبيا وحيوي قانون قف كمرك الله قصبه لبان الهدي إسفوران لبان ناقو هدي إسفوران دنيا ناقو هدي كرسينيستان أو يستوقليهين سنة لما يلعب حير كانوا يقصوا فقرات أوه الرئيس وهذا خريج كرتا وأنا قانون كقالة عالية لبا قفوا كستويس okay sheekh dir wuxuu ka hadlayaa waa runtiis xeerka madaniga dalalka reer galbeedka ah nin iyo naag hadday is ogol yihiin waxay yiraahdaan consent sex naagtu ma odhan karto ninku wuu kufsaday ninkuna ma odhan karo naagtu way kufsatay hadday israacaan way ogol yihiin consent adult bay odhanayaan these are consenting adult laba qof oo waaweyn ba wax isku ogolaado waxay doonaan isku samayn karayaan ma garatay inkastoo diinta kristaanka orthodoxka ah ma aragtay ay diinta islaamka la mid tahay oo ay maaragtay diidan tahay xagga maaragtay zinada iyo waxyaabahaas oo dhan sharciga madaniga qaateen meelo badan oo ay zinadu ka mid tahay marka taas uu ka hadlayaa sheekhu in adin sharaxaan doonaaye so la socda galma noocay doonaysaa haatay isku ogolay agtooda sina kama ah waana ku xusantaa marka sinada waxa la yiraahdo wala iska sameyn karaa weey dadii haw mar haday isu koshi dhanka doontaan u rida bay ka dhigantay rag iyo dumar dhinaca doontaan wada xeerkan isagiisna wuxuu yaqaan waxa loo yaqaan xagga sharciyada iftisaabka ama kufsigaas uu leeyahay kaasaasina oo cuqubo yeelanaya cuqubadii maxay noqotay xeerkan ku jira cuqubada xeerkan loo dhigay ma aha tii islaamku yaqaan quraanka iyo xadiidku ay sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo waa xabs marka waa taqyiir li sharci ilaahay sharcigiisa ba si cad loo bedelay ayadii ku sugnaa suuratu nuur ayadii kale sheekh wuxuu ka hadlayaa dalalka reer galbeedka inay maaragtay zinada fasaxeen oo ay sharciyada ama garanaysa madaniga ku qaateen oo ay leeyihiin labada qof waaweyn ee aan caruur hadduu qof weyn qof yar siro taasoo kale kufsi bay u arkaan laakiin haddii oo xitaa uu ilmaha yar meel u raaco waxa la odhanaya waa adaa ka caqli badan adiga qaangaadhaha adiga siray haddii aad raacdid qof kula da oo aad maaragtay qaangaar anaga waa 18 jir meelahaasi dalkayaga laakiin dalal badan oo kale qaar baa 17 ah qaar baa 22 kolba sida iyagu qaataan waxay ku leeyihiin labadii qof hadday israacaan oo ay isla seexdaan waxa weeye zina marka ma aqoonsana waxay leeyihiin waa laba qof oo waaweyn oo israacay marka sharcigoodii diinta kristaanka may raacin waxay raaceen sharcigoodii madaniga ahaa oo way sharciyeeyeen way ogolaadeen in labada qof isla seexdaan wuxuu kaloo ka hadlayaa haddii uu qof qasbo markaas ay zina u arkayaan kufsi ama rape ma garanaysaa zina maaha kufsi ama rape ay u arkayaan kufsigii hadduu qof kufsado xarig weeyaan buu yidhi sheekhu laakiin dalka yagan oo kale ragga serial rapiska dadka kufsiga faraha badan sameeya inta la xidho la sii daay haddana wax kufsada la xidho la sii daay ama kufsaday dumar fara badan ama caruur fara badan oo kiis badan lagu way ku xukumaan dil at the end dilka way jiraan gobolba uu ka mid gobolka kale ayuu ka duwan yahay anaga dalkayaga gobolada qaarkood baa xukunka dilka diidan gobolada qaarkood ayaa xukunka dilka ogol iyo the right for self defense iyo xuquuqdaada istifaaca self defense ka loo yaqaan hadduu qof gurigaaga kuugu soo galo yaa oo kugu soo jabiyo ku tiraada iscayim isheeg qofka tahay uu weli kugu soo jabinayo inaad dil kariso ka siin karisid garanaysa أحاديث النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام هل كحصل إسكندرية وحلا يجري عقوبة كفسي جوا وحلا جو بدل يا حرك تلنا ملك الباش ملك
sidaana waxaa tilmaamaya qodobka shanaad oo aad ka akhri karaysaa xeerkan isaga ah waxyaabuu shareecada ku khilaafsanya waxaa ka mid ah ninkii xaaskiisa ama odaygii islaantiis qabay hadduu midigka kale ku daqaqabuu qasbo wuu kufsaday weligoodba ha isqabaan islaantiiba afka marooriso odaygii diiday markaasuu isna riixayo xoog buu kaga qaaday maxkamadda. جزاك الله خير شيخ سو ما مقليسان نين هدو قبل حاسكيسا قصبو يدون كرالي أهين هاد حلال بكو قبا هدو قصبو وكفسي بيدينيري قبل حقي إنه أقاذ إنما حقي إنه أقاذ بكسو حوي وحي أنا أقين نتقرن إن الإلهي كوكم حكومة يو لكن وحي عليه الصلاة والسلام وحي آد ما أركتي أكتهد قرن يسيد كوكا عديد وادن بكبائر وانا لقوق أشتكين كريا وين تشرتان قبل الله حوقو الرقود حوقان أو أي قصبان يدو عريسان وحي لدونها اللي يسكو تشيرو ما قرأت qaar separation ku kala maqano inta isku caroodeen kala duday oo haddana meel iskugu yimid oo ninkii gabadhiisa xoogay taasina way dhacday laakiin dumarku qarsadaan ay baqaan ma garanaysaa soo taagaya ninkiiba waa lagu haystaa islaantiisii cuqubada xeerka loo dhigay maaha tii islaamku u yaqaanay qur-aankii xadiidku ay sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo waa xabs marka waa taqyiir lisharci ilaahay sharcigiisiba si cad loo bedelay آياتي كسبنا سورة النور آياتي كلا أحاديث النبي صحيحة عليه الصلاة والسلام هل كحصل الله يسكن لجاو وحلا يجابي عقوبة لا كفسي قلا وحلا جو بدل يا حرك تلنا ملك كرباش ملك سدارا وحد المام يا قضب الشناد وأتك آخري كريسة حير كان يسقى وحيابو الشرعة كل خلافسية وحكم ذا إنكي حاسكيس أما وضعي إسلامتي قبل هدو ميدك كلا كنت قبو قصبه وقف صدي ولقد بها يسقطع إسلامتي أفكا مرورسو ضيقي ديدي مركاسو يسن الريحة يحوك بوكا قاضي محكمة دالة سو تاقية إنكي بوال بها يستاوى إسلامتيسي رق بدنا وحا لغا يابا ساعد دي ودرينسي ولا نغا جوجيه ويرون لأيان حبرو إنغا هوريغانين sidoo kale da islaantu waanay dirqii karayn mudaacabada waxa la yiraahdo iyo ciyaarta ninkii gabadhu ay isku sameeyaan iyagoo da isku xulxudanaya hadduu midka kale oo golay ku sameeyo waa maxkamad waxa qasab la yiraahdo baagtooda dambi ah waxa heerkan ku jira haddii ilmo yar loo guuriyo ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado waa qodobka 7 waa dambi waana maxkamad تابع عليه هذا واحد النبي محمد بامركو عاشق ورسالة دنبيلها لا توفيقس هذا اللي قال أنا وين الشيء دونا وبستيريا تبشرب سيديريا طبعا قف كير هدي لو غوريو ومحكمة حرق انت لك بقف على مرنة وضيبا إن انتي سيغوري إن يربك لحية تبشر لو غوري قوان ومحكمة دنبيلا يروي قفا وحبا دوران كرينينو قان قارهاي ايا لو غوري halkaas intaasina maraysa islaamkuna wuxuu qabaa ninka waaran in loo guurin karo gabadha waaran loo guurin karo sariga loo guurin karo inanta yar loo guurin karo zawaajul maslaha bay fuqahaadu yaqaan tubteena macruufka ah fiqiga guurka danta ku jirta way haday gabadhi tiraahdo ilmaha yar waa ina wanaagsan oo nasabkiisu fiican yahay xoolo u leeyahay ana korsanaya 10 jirkiisa ma ayaa oo sidiisa ku korsanaya يا والله بالله دينتي ومسلا برانينا محو يري شيخو هرتا جواز زواج المصلحه اسي انو ولي ما اقان بين لغا ما شيغو انتي هوران ku deynaya mar kale inu ka hadli doona because waxyaabo badan buu ka hadlaya waxaan soo qabanaya asxaabta Ali Abukar baan soo qabanaya oo yiri wax baan fahmi waayay but anyway doodiisa rabay inuu ka dhiibto inana waan akhriyaya marka gabadh inuu ninkeedu xooga maaha waxa weeye de gabadhaada sabab ayuu ilaahay yiri u roono u fiicno u wanaagsano ma garatay inta iska soo carab burburaysan iska sugma salaamu calaykum halka joogto calaykum salaam waraxmatullah xabiibti waan ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa waan ka qaaday walaalo si fiican asxaabi ma noo maqashaan ma maqlaysaa walaalo أنا وصفي عم أكون مقلع حبيبتي كوس قبل بعتها شيء المقعد هي ماشي أشوك كوس برنامج هدي هذا كي تهينا وجهك قبل أركاي ناشك أو نقلنا قبل أنا أركاي ولا لا نقول فقط السلام عليكم ويلكم وحبا قصن معي وعم قولي
fiicanahay iyo wara walaalo aad baan idin salaamayaa intiina meesha ku jirta run ahaantii arrintan horta sheekha muxuu ahaayey uu yidhi ma aha calashaan yaynaan khalad u fahmin ninka hadduu xaaskiisa uu qabo muu odhanin yacnigii shiikhu hadduu ninku xaaskiisa xoog wax kaga doonto waa kufsi sidaa umuu turjumin laakiin wuxuu yidhi sharciga la qoray ayaa shareecada islaamka khilaafsan meeshuu ka khilaafsan yahayna waxa weeye waxay yidhaahdeen ninku hadduu xaaskiisa uu maaragtay ay isu diido oo dabeedna uu xoog wax kaga qaado waa kufsi diinta islaamkeennu waxa weeyaan gabadh ma odhan karto ninkaygiibaa i kufsaday ilaahay baaba u xalaaleeyey oo waa ninkeedii oo wuu qabaa waa la isdiidi karaa marmar waa la isdiidi karaa laakiin shareecada islaamku ma qabto gabadh xaasa oo la qabo oo shareecada islaamka lagu guursaday in haddii ninkeedu xoog wax kaga qaado diinteennu ma qabto in la yidhaahdo muxuu ahaaye waa kufsi markaa nimankan laakiin reer galbeedku way qabaan dad badan oo Soomaaliyeed oo sameeyeen way jiraan intaanad ka boodin pointkaasi nimanka reer galbeedka ay noo dambeeyaan sheekhu waxa tiri wuxuu yiri ninka diinta islaamka shariicada waxay ka qabtaa ma kufsan karo naagtiis hadduu xoogo violently ku xoogo no sharci buu sharaxayaa sheekhu anu saan u fahmay sharci buu sharaxay qodob buu sharaxay qodobka wuxuu yiri wuxuu shareecada islaamka ku khilaafsan yahay buu yiri qodobka shanaad wuxuu ku khilaafsan yahay shareecada islaamka inay yidhaahdeen haddii uu gabadha ninkeeda isu diido oo uu xoog wax kaga qaato waa kufsi shareecada islaamka halkaasuu ka khilaafsan yahay buu yidhi dalalka maraykanka annaga waa kufsi waa run marka diinta islaamku maxay ka qabtaa we need to know because sheekhu wuxuu yidhi baa tiri nin muslim anigu walaasaan u fahmay aan u dhageysanay horta dawaataa diintana inaynu wixii maaragtay aynu jaahil ka nahay iska saxna weeyaan magaranaysaa diinteenuna wixii ay ka qabto waxa igu muhiimsan aan usoo galay meeshan aan kuu soo wacday waxa weeyaan walaalo dadkii oo dhan waxay soo qorayaan inantaa la kufsaday in dumar iyo rag ay duudsinayaan xaqeeda oo ay doonayaan inay nimankii gabadha kufsaday aan sharci la hor keenin sidaa darteed maanta wax waliba social media hor yaalaane fariintaydu waxa weeyaan dadka reer muqdisho intii dhiig leh intii dulmiga diida intii ilaahay ka baqaysa intii gabadhaas u damqanaysa inay sheegaan dadka ka soo horjeeda ha sheegaan magacyadooda xildhibaane hadday yihiin ha noo soo gudbiyaan hadday dumar yihiin ha noo soo gudbiyaan qabiilkay yihiin ha noo soo gudbiyaan hadduu askari yahay ha noo soo gudbiyaan yaa la qarsanin wixii ku aad qarisaa way ku qarsadaan anaka hadday dadka marka adigu wax waroo sugan iyo cidaad la xidhiidhay arrinkan la leeyahay reerkii waxay leeyihiin 6 nin baa lanoo xiray 4 baa imka la leeyahay way joogaan waanu yaabanahay sheekadii waa la bedelay way mudaaharaadeen waa la jirdilay dumarkii ma garatay qaar baa la xirxiray waa la caburinayaa inama police station ka shaqaynaya iyagoo qariye identity-goodii shakhsiyaadkooda waxay soo sheegeen in 2 nin madaxi kala baxay de warka waad haysataa videoga inta hore daawatay waana soo walaalo waan arkay aniga waan la xidhiidhay wali waa la ii maqan yahay war saxa oo ilaahay kugu og yahay baa dadka la soo hordhigaa so marka waxa weeyaan wiilasha laftoodu hadday iyagoo aan cidina magacyadooda sheegaynin imanayaan aniga waana loo sheegay niman xildhibaane inay la baxeen aniga gabadh baan la hadlay way raadisay inan wariye ah waxayna caddaysay in raggii markii hore 6doodiiba iyo 2 naagood oo gabadha shirqoolay oo yidhi shaqaa lagu hayaa marka waxaa jirtaba in niman xildhibaane ah iyo dad siyaasiyiin ku jira dawladdu inay doonayaan inay la baxaan oo ay dadka durba la kala shaandaynayo oo la diidayo sidaa darteed anigu waxaan rabaa dadka reer muqdisho halkaa jooga ee arrintu meeshay ka dhacday jooga inay soo gudbiyaan sawirka qabiilka hadduu xildhibaan yahay hadduu askari yahay hadduu yahay ummadda Soomaaliyeed sidaanu balaayo loo qarsanayay ayay halkaa wax waliba na gaadheen so waxaan leenahay inay noo soo gudbiyaan dad reer muqdisho ah aniga ku xidhan channel-adayda badan intaa ku jira inay soo gudbiyaan oo ay keenaan oo yidhaahdaan waa kana ninkan xildhibaanka ah baa ninkii hebel la baxay in la ogaado
oo social media dadka ka hadla waaba la sheegay magaciisa laakiinse muxuu ahaydana wax kaloo xoga kama hayo run iyo been inay tahayna allahu aclam laakiin sidaad sheegtay xaqiiq baynu u baahannahay iyo garab iyo gaashaansi inaynu iswada siino waa kugu raacsanaytaa talabaad waxa weeyaan maaha arrinkani arrin joogsanaya ninkii kaa horreeyay ila hadlayay wuxuu yidhi weligeeday dhici jirtay laakiin waxa ka yaabay wiilashii baa loo gudbay taasi aragtidaadaan u baahanahay walaaliya inaad dadka ka wacyigeliso in aynaan kala duwanayn oo ragga un loo kicin dumarkana maaragtay la yidhaahdo naag bay u tahay kufsi cid walba waa walaal dulmiga haddaynu daawano dulmigu wuu isdhaldhalaa soo maad garanin haddii gabdhihii la yidhi odayaal cimaamada garabka ku qaatay ha qaataan oo adigoo nool lagu tafaariiqeeyo kii kufsadaba xoolo laga qaato oo laba oday garabkaysa saaraan inaguna aynu daawano inageena hooyooyin uurlaa la dilay oo iyagoo lagu kufsaday oo aan cidi ka hadlin maanta wiilashii bay maraysaa waad arkaysa reer gado inay toogteen months ago laba nin inay ku toogteen immediately walaa gabadh waxaan u baahanahay in siday u toogteen ee ay sharafta u sameeyeen loo toogto oo la hor keeno oo aan laaluush dhicin ninka la baxaya police stationka ninka kala baxaya magac buu leeyahay yaan la qarinin ninka xildhibaankee la baxaya yaan la qarinin ninka shaarka dawladda lagu kufsanayo that means isagaa lagu kufsanayaa shaarkiisii gabdhihii wiil yar baan maanta arkayay oo hooyadiina daaqada ku booday inankiina la kufsaday toban jirka waxa way dadka reer muqdisho waxaan leeyahay dulmigu wuu idinku badan yahay xeryaa laydinka dul ootay toosa dadka reer muqdisho toosa oo xeryahan laydinka dul oosee la leeyahay dad baa lagu qalanaya ee qofkii la leeyahay dad buu qalanaya idinka idinla joogo ee qaar garabka saarayaan ee xeryaha iyo hogagu idinka dhex badan yihiin سوق ولا سوق مال والبكرية انت حاجة عيد كستا شهر قرية ولا لي هدينا دكان قايلين قيلدو ميل دير waxa la dhagaxna meel dhow ku dhaca warkuna meel dheer buu ku dhaca waxaynu qaadan karnaa maaha shanta Soomaaliyeed meel kasta la joogo laba jir la dhaafi maayo oo inaguna maalmaha hore aynu qaylinaa social media-da ka qaylinaa mudaharaadna dabadna way isla dantaa meel lagu kala qaatay gabadh yarida jigjiga oo dhexdeeda laga soo helay ee la kufsaday meel lagu ogaa ma jirto kuwa gabadh xaamilada ahayd ee 9 bilood ahayd ee garow lagu kufsaday meel ilaa hadda xuquuqdeedii ma ogin ee gabdhihii gobolada dhexe ee muxuu ahaayay iyagoo baca ku jira la helay ilaa hadda cid loo qabtay ma ogin waxa weeyaan anagu hadaan dadka qurbaha jooga laba baan idinku caawin karnaa codkiina inaanu ku hadalano idin qaylino waa idinku caawin karnaa hadii lagu yiraahdo soo gudbiya hadaad baqanaysaan reerkana in la yiraahdo maanta dhaqaale hadii la yiraahdo looyaradood iyo waxooda la yiraahdana waa idinku caawin karnaa laakiin meesha idinka jooga midida daabkeedana idinka hayo I'm not talking about only Muqdisho waxaan ka hadlayaa Soomaaliya oo dhan ninkii gabadhiisa maanta waxa la soo saaray nin Hindiya oo walaashii la kufsaday muu mudaharaadin kurka ka soo goray saasuusida sida uu police station ka keenay absolutely yaman bay ka dhacday yaman wadanka burbursan iyaraan kugu darsado anigu shalay ismaan qarinin waxaan idhi naag walayba tag suuqa hooyada iyo adiga iyo ayayda iyo edada iyo habaryarta kulligiin tooray soo iibsada ya dhaxda ku xidha kii ku kala tuure ku taabta tooray mindi loo soo qaadan maayo baastoolada ha soo iibsadaan gabdhuhu baastoolada ha soo iibsadaan dhiigu ha wiilqayo hallays hubeeyo waxa weeyaan ninka kula soo baxa ee ku qabin ee ku sharaf dilaya ee raba inuu kawkaaga siiyo ha ogaado inay tiisu maaragtay ku khalaad tahay naftaadana adigu ka mas'uul ka tahay arrintan waa inaan aad baan ugu faraxsanahay inaan live-kaaga soo galay walaalo wayga inaan maanta dadka baaqa loo diro reer Muqdisho sheer gareeyo ha gaadho reer Muqdisho ha gaadho maanta cusub ninka wiilka yar kufsaday in la soo qabto la dilo la toogto nimankii gabadhan kufsaday naagaha difaacaya qabiilkooda soo sheega magacyadoodana soo qora geedkay galaanba waan ku soo saaraynaa nimanka xildhibaanada ay la baxaya gacan ku dhiiglayaasha soo saara hudheelka cidda leh soo saara imika qabiil ha isku hagoogina ciduu doono ha ahaado soo saara baanu leenahay soo saara oo milil korkii hadhayanina oo reer Muqdisho wixii Soomaali mujrim lahayd Soomaali shanta Soomaali
mujrimkii joogay idinkuu idinla joogaa waayo waa calool muqdisho waa calool waa hooyadii soomaaliyeed idinkuu idinku dhex dhuumanaya ubadkiiniguu cunayaa ee kaca oo meeshan laleeyahay xalanaa la yidhaahdaa ee carruurteennii sida basasha iyo tobaandhada la geynayo maanta haddaynu dhagax la hor fadhiisano dhagax baa laysku xorayaa falastiin soomaydun arkin ka kacoo nafta ha jeclaysanina meeshan waxa ku jira wax ka dheer baa ku jira miyaynu ognahay gabadha waxa kufsaday intay kufsadeen dareereen inay xalano galeen maynagaa og ma ogin waxa la yidhi laba orari diyaarad baaba tigidhaa loo gooyay Nairobi bay ka degeen baaba la yidhi labadii uu ninka madaxdii la baxay inan waxa la yidhi Nairobi bay ka degeen kuwii kalena waaba la bedelay baa la yidhi waxa lagu bedelay dadkii localka ah waxaana la yidhi lixda inanna dibadda isaga hala soo qabto ninka madaxda goostay soo saaray ee tigidhada u gooyay isaga la hayaa bur hadii la way bedelkiisa la helaa isaga way la soo qabtaa absolutely talabaad waxaan doonayaa u mahad noqo dhammaan madaxda Soomaaliyeed aqoon-yahanada ragga ka shaqaynaya behind the curtain waxaan nidhaahno oo adaha dabadiisa hawsha ku jira ee aan ismagacaabin geesiyaasha ee ragga ah waxaan tuugiga sarxaan iyo nolosha ka dhacaya dhaqan bi'i soo miidhan oo halkan fadara ahaayo ka cararay oo reerahooda u taag waayeen xitaa halkan inta kufsi iyo xashiishad iyo balaayo ku soo geysteen dalkii lagu tuuray gabdhaha baabi'inaya dalka qasaya waxa weeyaan maaha nin rajale lamana odhan karo waa rijaal nin Soomaaliyeed lama odhan karayo hala qabto hala xidho ammaan ha kula degdegin waayo nin waddankiisii joogaan la haysanin oo gumaysta haysanin oo nin kale ka baqayo xaqi ku adibi waayo qaylin waayay aniga ammaaniga ma mudna ee waxa weeyaan baan leeyahay askarta booliiska joogtay askartay haddaad noo keentaan gabadha idinkaanu tigidhada idin goynaynaa idinkaanu idin leenahay idinkaanu ninkii askariga ah ee loo geeyay 60 nin ee gabadha kufsaday loo geeyay noo soo saaro lacag naga siista anaga qurba joogta Soomaaliyeed ka siista lacag oo idinkaanu tigidhada idin goynaynaa noo keena u diraynaa waxa weeyaan lama qarsanaayo waalidka ha soo hadleen dumarku ha soo hadleen fariimo noo soo dira inama waaweyn oo sharaf leh oo social media ku jira baa jira oo soola xirta sheekh qaar badan ay ka mid yihiin oo jecel bulshadooda oo wax walba ka hadlo dhalinyarada waxay hadlaha loo soo gudbiyo soo diraan idin leenahay soo dira gabdhuhu yay baqanin codkiina dhiibta baahidiina noo sheegta annaga la hadlayno la xisaabtamayna ta baarlamaanka ku jirta ta wasiirada ah ta maaragtay xildhibaanimada doonaysa ta doonaysa bari inay ololayso ta doonaysa lacag sababal inay bari ka aruursato annaga magacyadooda sheegayna hadday maanta garab iyo gaashaan kuu noqon waayaan annaga odhanayna puntland Soomaaliya joogta kiralka shanaad ee geedka hoostiisa jeegta jingadeeda lagu jajabinayo lagu dhex kufsanayo caruurteeda haddaanad u hiilinaynin annaga kuu sheegayna in maaragtay berri toole iyo maantaba magacaaga aan soo dhigayno oo aanad maaragtay matelin dadka meesha ku dhigtayna aanad ka warhaynin waxaan leeyahay gabdhahan gambada dhaadheer isku soo xidhxidh ee jooga xildhibaanada u fadhiya qabiilkii doonaan ha ahaadaane nahoy bawda walba bawda rag maalinba mid baa qaawan gabdhaha xildhibaanada ahow haddaad meesha mushahar ka qaadanaysaana ood mushaharka keliya u tagteen oydan hablaha dhexdiina lagu bahdilayo ee raggii la kufsadayna marka lasoo qabto nimanku la baxayaan aydan waxba u qaban karaynin waxaan idiin sheegaya risiqiina ilaahay baa qoray idinkuna waxa weeyaan meesha mushahar unba inaad u tagteen unbaa noo cad haddii kale gudoomiyaha degmada maanta dhaweyto lasoo fadhiisanaya xeerta shuuq wareysanaya waa dumar kuwa maalin walba muxuu ahaayey meesha jooga qabyaalada u safar xildhibaanada isku sheegaya waa dumar waxa weeyaan shicibkaanu idinku soo kicinaynaa guryihiina inay idinku shiidaan haddaydan dadka u shaqaynaynin weliba dumarka taagta daran u shaqaynaynin anigu maanta waan dhegaystay xildhibaannima waa dadkoo dhan baa iska leh kelmada xildhibaan waa inay xumaanta ku dhigtaan macnaha xildhibaan muxuu yahay mushahar baa waa maxay maalin walba waa waray dad gabadhii yaryada ubaxa ahayd ee soo socotay intaa la kufsaday oo la googooyo dabaq laga soo tuuray baana la leeyahay waxa laga saaray diyaarad baa loo saaray oo dawladdii baa lagala dhex baxay meesha inaynu degdegna inaguna maaha inay runta isku sheegno iyaga laftirkooda victim waad garanaysaa xildhibaan saada cali warsame waxa ku dhacay iyada laftirkeedii dhiiggeedii la waday dhulka waxa weeye iyaga laftirkooda ayaa shaqadoodii lagu caburinayaa oo dil iyo maaragtay amnigoodii khatar ku jira way dadaalayaan way soo fadhiisteen way sheegeen in cadaaladda la jirto maanta waxaan kasii jeclaan lahaa inay tagaan guriga gabadha victimka ah oo ay maaragtay police stationkii gabadha la geeyey raggii maxaabiista lagu xiray tagaan oo meel walba noo soo sawiraan soo aragno insha allah
waanu ka aqbalnay muxuu taxsidii waa taxsiid noo wada taalla waanu shaqaynaynaa bay yidhaahdeen maanta baarlamaankii waa laga hadlay qayladeenu meel dheer bay gaadhay laga fadhiisan maayo wadaynaa aamusina intaa idinkuna ha aamusina qofkii hadli karayaaba ha hadlo walalaad baad u mahadsantay dadka kalan jaaniska siinayaaye ilaahay allaha ku darajeeyo thank you so much you always welcome xabiibti sidoo kale thank you walaasha way ku mahadsantay inay gala soo qayb gasho maanta oo ay ii caddayso inuu sheekhu ka hadlaayay qodobkii ahaa xeerka gaalada laakiin diinta islaamku si toosa ayna u qeexin in ninku gabadhiisa kufsan karo taasna sheekhida ayaynu kala tashanaynaa laguma degdega beenna lagama sheego diintaada islaamka inkastoo aan ogahay xuquuqda diinta islaamka inay si fiican u saxday u sugtay suurata nisa ay ku saxday oo la ina yidhi soo taaga gacanta walaala zamzam daahire gacanta soo taago ay wax badan laynooga sheegay marka waxaan u baahannahay inaad sheergaraysaan gabdhihii xildhibaanada ahaa xildhibaano may ahayn waxay ahaayeen members of the parliament of Somalia waxa weeye in wax la iskaga daydo Somaliland Puntland iyo Soomaaliya inay wadaagaan xog wadaag sameeyaan xagga amniga oo ay wixii ay isku dhaamaan isku sheergareeyaan sida ay uga hortagaan falalka noocaasa musuqmaasuqa dhibaatada waxyaabahaas oo dhan because waxa weeye at the end of it mujtamacii Soomaaliyeed ilmahan Muqdisho dhaqan celin loo geyn karin Hargeysa la geeyaa oo Somaliland ayaa la geeyaa ma fahantay ya la kadalik with Puntland ma garateen so waxa weeyaan gogol baan qodob fadhina waa dhulkeenii laakiinse waxa weeyaa de meel walba cidii ilaahay mas'uulka u saaray ayaa ka mas'uula iyaga laftirkooda xildhibaanada baarlamaanka waxa weeye madaxda iyaga laftirkooda amnigooda uu khatar ku jira markay noqoto muxuu ahaynay Soomaaliya so ma oran karayno wax walba maalin ay ku dhamaanayaan Rome is not built in one day way dadaalayaan way ogyihiin inaynu ku daba jirno oo aynu rabno jawaabo waxay sida walaala sheegtay qof walba oo dalkii jooga oo kiiskaasi siiba gacanta ku haya oo xog rasmiya ka og ilaahay ku og yahay been abuur ma rabno ma la rabo in la isku diro dadkeena masaakiinta ee hadda maaragtay nabadeena loo yabyabaayo ma rabno annaga ujeedadeedu taasi ma aha markaan anigu hablaha leeyahay isdifaaca ma aha waxa weeye qof ku salaamay mindigeli waxa weeyaan qofka aad og tahay inuu naftaada kugu yimi oo ku kufsanayo ilaahay kugu ogyahay ilaahay baa ku baneeyay inaad naftaada difaacdo intaan walaalkaa ku soo gaarin intaan walaashaa ku soo gaarin intaan aabaha ku soo gaarin cid la ciirsala hadday kugu qasabto naftaada inaad difaacdo weeyaan fulayna ma goblamo baxso ha istaagin mindiha la soo bixin adigoo sita oo hubaysan haddii lagaa fara badan yahay ya lafahaaga oo carar ha taagnaan meeshaas asxaabta kala soo qabanaya inantii ilaahay soo qabo let me see maanta uu dhaamaa telefoonkaygu sidiisii sawirro badan baan ka masmasaxay zamzam baan ku soo darayaa imika السلام عليكم. calaykum asalaam xabiibti xageed joogtaa barasho wanaagsan soo dhawow أباي وادو هاي مقدشان كالو سو هادلايا ملجو. waaw soo dhawow warkii ugu dambeeyay adiga ahayeenna sii waan kaaga fadhinaayo xabiibti أبايو دما وان سلامي أصحابتو كجرت ليفكاغا. ما شاء الله سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم walaalay war ma lahan milgooy waxa waaye dhibki dhacay oo gabadhii masaakiinta ahayd ku dhacay walaalay haye saa aragtay ayaa banaanbixi saa aragtay ayaa dumarka Soomaaliyeed loogu galay ha aniga meelaan banaanbaxaas ka fogeen ayaan joogay ma tagtay ma ka qayb gashay booliski aad bay booliski aad bay gabdhaha u dhibaateeyeen haye nimankii hoteelka lahaayeen ciidamo iyo waxay soo wacdeen iyo rag hubeysan haye abaayo hadaa runta kaaga hadlo haweenka Soomaaliyeed haye mid yar iyo mid weynba wax xaquuq kuma haystaan Muqdisho haye waxaase kaaga sii daran milgooy waxaa kaaga daran horta caaliya kheyr allaha siiyo gabadha hadda oo UK joogtay iga horreysay maasha waan ku Allah xiranahay abaayadaas waan dhageystaa wacyigelinteeda sax islaamaha taageerada dheer oo baarlamaanka noo jooga abaay waxay ku fac yihiin danahooda qaaska ah ma fahantay haye
danahooda qaaska hay kuraastas ugu fadhiyaan هاي kuwa oo NGO-yada iyo xuquuqul insaanka u doodnaa dhahayaan kadaaliko ما بعد waxaa waa bay gabdhaha Soomaaliyeed waan baaray wax information maybe shaqo ay xagga dambe ka wadaan oo dee weli bulshada loo soo bandhigin laakiin maan arag xitaa wax dhaleecayna markay noqotay gabadha dilkeeda ilmaha yar kufsigiisa ma arag ururada samafalka qaar baan damcay inaan la xidhiidho oo aan nambaradooda xitaa wixii kari waayey aniguna ii geli waayey nambarku ma garanaysaa marka iyaga laftarkooda ma aysa hadlin ها مان أعرف abaya ma aysa hadlin iyo wax local ka hadleen ma jiro xitaa qoraal joornaalada because idinka local kiyo la socda kama hadlin abaya kama hadlin maama batuulo kama aysa hadlin jawaahir kama aysa hadlin aniga magacyadooda xataa waan sheegayaa waayo waxa iga keenaya kuleelka ihaay gabadha Soomaaliyeed sheeg wada sheeg ku soco ma ahane ilaahay dhinacan kale u soo bedelay ma ahane gabadha waxa la rabay inaan bal arkinba inta muddo inaan la arkin meel luuqa macnaha xaafadaas waxa wada dabaqyo badan waay luuqyo badan oo isku imaado waa haye gabadha inaan la arkin xataa ulajeedada way ku jirtay abay shirqoolkana wuu badnaay waa cid iska masaakiina milgoy gabadhooda 19 sano wax in yar aan inoo hago mar haddaan adiga ku helnay aad baan kuugu baahanay koow hudheelka magaciisa ma noo sheegi kartaa adigoo raaliya mise hoteelka abay hotel shaacsan ma ahan waa hoteelada horta Muqdisho laba qayb waa hoteeladooda hotel waa hotel shaacsan oo la yaqaano oo magaciisa shaacsan hotelna waa hotel dhex yaalo oo iska local ah waa motel oo kala baan niraa hudheelada yar yar magac male markaa miya ha hoteelada yar yar waaye magac shaacsan ma lahan marka hoteelka dhalinyara gabadha gurigooda horta gabar baa gabadha balamiso hoteelka magaciisa ma haysid soo maaha mise ma rabtid inaad sheegtid haddaad doonto iska dhaaf ka maya hoteelka maya abayo maya hoteelka magaciisa ma hayo laakiin degmadaas ku yaala shala banaanbaxa aan la socoto milgo ani waa daarta waa ku daawade sax waxaan doonayo kale inaan ku weydiiyo gabadha adiga aqoon shakhsiya ma u lahayd runtii aqoon shakhsiya ma u lahayd abaya aqoon shakhsiya oo macnaha foolka fool umaana aqoonin gabadha waa gabar yar laakiin gabdha ehelkeedaha aqaanaa ما شاء الله gabdha ehelkeedaha inaan hadda la xiriir rabaa oo abtiya soo korsado gabadha aabeed soo ma korsan abtinin aha soo korsaday oo hadlay social media ka hadlay idaacadaha gabadha eedada aabahaasna maxaaskiisa iyadana meesha fadhiday waa xaaskiisa gabadha dhahaysay subaxii inta igula quraacato gabadha ayay dhar usoo dhaqaysan ku baxday gabadha waa gabadha soo korisay oo abtiga qaba waaye صح إيه رسول ولا بليز كل جيم برنامج كشير جراي سيد وجارد كرير مقدشة ولا واتا إن الله الله يسحق في عم بين السين يسا كسر واحد نوجا ورن ترى إن في عن نوجو قيحضه قبل دا إذن أدو الرون تحط أكهيسيد sida inantaasi loo haleelay halka ay maraysay hadii cidi ka xaysay bal xogta runta aan noo sheeg because sheekooyin badan baa is dhex maraya adiga hadda waxa aad ka warhaysid noo sheeg abaya gabar habareerteed dhashaan la xiriiray aniga sax waxay igu tiri gabar saaxiibteeda waday oo laakiin iskoolka aan la dhiganin gabdhaha bay iska saaxiib badan yihiin haddii iskoolka ay la dhiga lahayd waa la qaba lahaa gabadha iskoolka waa la yaqaan dadka iskoolka kula dhigto laakiin gabadhan saaxiib iskool ma aysan ahayn gabadha waday oo hoteelka geysay oo ii sheeg oo nimanka oo meesha isku raacay markii gabadha guriga ay ka bixisay saaxiibteedii raacday kadibna gabadha facebookeedii inta la jabsaday laga hadlay hooyadeeda taleefanka laga wacay oo la dhaha gabadhaadiyo meeda meeshaas taalee doono familiga xataa ma ogaan lahayn haddaan hooyadeed la wici lahayn milgoy sheekadan sheeko dheer waaye laakiin waxaa aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed uga codsanayaa inay xamdi abaayo ee hesho isug xabiibti ha iga degdegin inantii telefoonka waxa laga soo wacay baa tiri cellphone-keeda laga soo wacay anaga lagu yiri laakiin waxa tiri Facebook-keeda la jabsay of course cellphone-keeda gacanta lagu hayay halkaas laga soo galay inantii muxuu ahayd reerka la soo wacay gabadhii niyo meeyda marka masuduuxa laga soo tuuray mise dabaqa lixaad baa laga soo duuray ma fahmayso waxaan ka hadlaa daaqad qolki gabadha qolka oo lagu dhibaateeyay daaqadiisa laga tuuray haye meesha ay ku dhacday dhiigi iyo balakoonka jabay iyo dhibaatadii ku dhacday meesha cidii ka hooseeyay booliska waxay isku dayeen waliba ay cadeeyeen inay tirtiraan dhiigi iyo wixii
laakiin rabbi baa cadeeyay oo ummadii tusay gabadha dhiig badanaa ka baxay waa qof 6 biyaan ka soo dhacay crime scene meeshii ay inantu ku dhacday sawir kamay qaadin baaritaan lama sameyn marka hore anaga waa la xiraa eriyada dambi baarayaasha yimaado waaweyn qofka meydka xitaa lama roga lama taabtaabto waa la sawiraa waa la cabiraa intuu ka soo dhacay waa la eegaa everything immediately crime scene waa la xiraa meesha dambigu ka dhacay qolka ama guriga waa la xiraa cagta laguma badiyo meel kasta farta la saaro bahalaa lagu buufiyaa faraha laga qaataa baasamaadka fingerprintka dhiigga la dhaqaaya markiiba baa tiri waa la tirtira wixii oo dhan waa la tirtira meeshii jabta waa laga qariyay CAD-da waxyaalo badan bay qarinaysaa laakiin cadaaladda ilaahay agtiisa taala milgooy cadaaladda ilaahay agtiisa taal reer muqdisho waxaan ka codsanayaa xamdi xaqeeda in loo keeno oo raggaas hadda xiran musuq maasuq lagu sii deynin oo odayaal qabiilaystaha magaalada ku nool odayaashii waxaa beledka joogo Caaisha yar duudsiin rabay Caaisha yar cadaaladda Puntland ku heshay xamdina waa inay ku heshaa muqdisho cadaalad waa in la isu soo baxo waa in gabadhaas dhiigeeda la keeno waa in raggaas gabdhaha kufsada oo bahallada waa in la keeno maxkamadda waxaan ka codsanayaa cod dheer maanta Jaanis aan u heystaa ciidamada qalabka sida wiilka oo u maxkamadda jooga Liibaan Cali Yarow iyo Shuute raggaas noo soo qabta xaqeena nooga qaada hadda hooyooyinka Soomaaliyeedna haddii kala Soomahan hadda Soomaaliya waa lagu kala tagayaa haweenkana meelna laga qaabilo ilaahay hana siiyo ilaahay agtiisa qaabilaada taala laakiin gabdhihii banaanka waa noogu bixi waayeen hayga boobin point fiican baad ka hadlayso waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ila waa layna dhageysanayaa ma garanaysaa adigana caadifiyad zaid iyo ku qaadina qalbiga ku xanuunaya waan ogahay xabibti waa idin la soconnaa waa idin taageerana waan idin taaganahay nabarka idin ku dhacay anagu nagu dhacay wallahi alcadiim aniga kaalkan iga dhaca ayaad ka dareemaysaan dalkii waxaan doonayaa gabdhuhu inay isku duubnaadaan waxaan doonayaa gabdhuhu inay ogaadaan mid haddii wax ku dhacaan inaan la odhan waa qabiil hebel iyo waa qabiil heblaayo mar walba xaqa dhinacaaga I'm telling you shalay toole intii reedan soo galad sheer garayseen waxaan kugu iri baarlamaanka ka hadlaayay oo taxsiib bixiyay iyagoo aamusan oo og oo idinla jooga magaalada ka aamusnaayeen bay ku tooseen markaanu niri waa laydin eegaya maxaad wax uga qaban weydeen arrinka qofka guri ganjeel weyn ku jira askar u joogto Land Cruiser SUV bulletproof ku socda maaha qof dhibaato gaarayso ya waa minimum laakiin gabdhaha ma aragtay ya laakiin maskiinada guri cariisha ku jirta inay nabad ku hesho weeyaan loo soo dhicin oo la kormeera waa inaan nabad ku helnaa baarlamaanka waxaan ka codsanayaa oo cod dheer iyo mid gaabanba ugu sheegaynaa gabdhaha xuquuqdooda in laga hadlo CAD waxaan ka codsanayaa xamdi xaqeeda inay keenaan isbitaalka Madiina waxaan ka codsanayaa gabadhi in la kufsaday ayaga marka hore sheegay kadibna kufsi kuma jireen dhaheen abtigeed waa dhageysateen milgooy musuq maasuq ayadoo 7 bari mootaneen uu bilowday ilaahay waxaan ka baryayaa cadaalad inay xamdi hesho dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee helaan waxaan sii codsanayaa maamooyinka Soomaaliyeed naga dawladda xaggeeda naga jiro inay soo baxaan abaayo inay soo baxaan maamooyinkaas way naga jiifaan aad iyo aad u weyn ayay nooga jiifaan hoteelka taga booliiska taga waraaqa qora ilaa madaxweynaha gaarsiiyo ilaa madaxweynaha la gaarsiiyo because waxa weeyaan waxa laga fadhiisanaya maaha madaxweynuhu wuxuu ka masuuliya qofka ugu daciifsan muxuu haydeenay dadka uu hogaaminayo uu mas'uulka yahay aakhiro qof walba qofka ka hooseeya la weydiinaya qofka ka sareeya la weydiinaya waxaan ku sheegayaa milgo abaay milgo waxaan ku sheegayaa qofka isdhihi lahaay muqdisho cadaalad ka jirta kama jirto muqdisho cadaalad kama jirto dawlad kama jirto baarlamaan kama jiro baarlamaanka waa lacag waa qabiil waa qurun aan la aqoonin wax aan ku heysano dumarka Soomaaliya war culimada noo kacaan war aaw culimadii war aaw ciqaashi war aaw odayaashina dhale war aaw wiilashii barofesorada ahaa waa nalaga laayay raggi noo hadli lahaa waa loo aga jugleynaya dhagayso xabiibti anigu ku sheegay ciidanna uma maqna ceelna uma qodna inta dhawaaqeenu meel dheer oo culus uu gaarayo qof walba hurdada durbaan lagaga soo kicinayo la odhanayo xamdi way dhimatay oo waa la dilay jiifku ma joogo toos maxaad ka qabatay waa lagu eegayaa haye
sanad kadib ha ii imanin doorashooyinku way soo socdaan sanad kadib ha ii imanin oo ha odhanin muxuu haydana waxbaan qabtaye iigu rid haddana maxaad soo qabatay baa imanaysa laakiin adiga waxaan doonaya in horta kugu mahad celiyo inaad runta ka sheegtay oo aad soo bandhigtay in maaragtay inanta maaragtay markiiba muxuu ahaydeen death certificatekeedii la bedelay oo aan kufsigii laga masaxay taasi anigu waan maqlay waxaana milgoy waxaan isku dayayaa abaay waxaan isku dayayaa aabihii gabadhaas soo korsaday inuu si toos u social media pointyadii wanaagsanaa ee taataabato dhama dadka ugu celinayaan inaad soo bandhigtay oo aad adiguna ka warqabtad xaqiijisay adigoo maanta muqdisho jooga in inanta death certificatekeedii warqadeedii dhimashada laga masaxay in la kufsaday in maaragtay dacwadeedii la bedelay in tiradii ragga la bedelay in meeshii ay ku dhimatay la bedelay in dhiiggeedii markiiba meeshii laga mayray in raggii la sii daayey inaad sheegtay 2 qof oo madax ah oo police stationka dacwadda toos ugu lahaa aad tiri ayaga ayaa bedelay mar labaad hello ها waa ku maqlaa baay wicitaana isoo galay marka waxaan kuu sheegayaa milgoy haweenka Soomaaliyeed waa inay noo hadlaan kuwa wadanka jooga waxba kuma haysan hadda ana u sheegayo wixii dhageysanay gadaal iga dhageysan doon haweenka Soomaaliyeed inta xuquuqul aadanaha iyo waxaan u shaqeynaa maxay ahayd hay'ado iyo waxaas waxba nooma taraan gabdhaha social media ku jiro intooda eega xitaa kamay hadlin waxay ka soo sheegeen ma jirto website-yadooda ana saaka wada eegay inay ka soo hadlaan weeyaan ay ka hadleen ma jirto isugu haday xitaa shaqo gadaal ka wadaanay wasiirkii cadaaladda la xiriireeno ma garanaysa gaashaandhigi la xiriireeno madaxweynaha baaqu direeno ama jir jaraa'id ay diyaarinayaan we need to know because waxa weeye waa hansan bay ku jiraan already ilma yaro kala la kufsaday maxay sameynayaan in sugayaan waxay sugayaan ma lahan wadanka cadaalad ma lahan wadanka ma jiro wax ciidan la dhaho waa qabiil iyo qurun iyo waxaan la aqoonin iyo heebsooc iyo ayaga isku mashquulshan dawladda waxaan u sheegayaa gabadhaas xaqeeda in la keeno haddaan xamdi xaqeeda la keenina gabdhahoo dhan waa wada xamdi gabdhaha noo joogo dhan waa wada xamdi hooyooyinku waa wada xamdi waan xabeebaysaan u hadlaayo codkaygu sidan mu ahaan jirin anoo qoslayo boodboodiyaan meesha soo geli jiray laakiin qoslayo boodboodiya midina korka diyaar uma ihide niyadiyo uma hayo farxad waa ka indhihi weli bararsan yihiin ma garatay walaalo waad mahadsan korkaana xanuunaya qalbigaana xanuunaya gabdhihii waa noo iskoolay gabdhihii waa noo jaamacado waxay noqonaysaa inaan gabdhihii iskoolada ka reebano oo guryahan ku xirano waxay noqonaysaa in gabdhihii ay jaamacado noo aadin gabdhihii inaan adeeg u dirsanin 24 saac yaa iska ilaalinaa ma waxaan iska ilaalinaa wixii aan dhalnay iyo wixii nala dhashay iyo wixii nagu midab ahaa iyo dhalinyarada miyaa iska ilaalinaa walaalay macaan mid baan idinka rabaa marnaba kama hari karaysaan jaamacadaha iyo iskuulada horta koo waxaan doonaya inaan hambaliyeeyo dhammaan ardayda qalanjabinaysa ee hadda ku jirta qalanjabintoodii jaamacadeed iyo heer dugsiyeed middu doona ha ahaado geerida inoo taale xamdi ku dhacdayna inan yaro hadda walaasheen iyadana graduate garayso shalay toole dabaaldegaysay 4 bilood markay indhuhu madoobaadeen aan nolosheedii ay hiigsanaysay maanta laga afqabtay tii baynu taagannahay maanta gogasheeda la fadhiya ma garatay waxaan rabaa inaydaan marnaba is odhanin ka hadha tacliintiina dib u noqda iskuullada kala hadha caruurta ha samaynina laakiin waxaan idinka codsanaya inaad ishubaysaan naftiina badbaadisaan bandoo shakhsiyana habla haddaad tihiin aad isgelisaan any meel aad joogtaan wallahi milga waxaan ku sheegay abay inta la soo bandhigay inta la soo fiidka hore soo hayda danahaaga soo qabso inta aad aad soo jeegda danahaaga soo qabso bismillahir rahmanir rahim dheh that's it bando shakhsiyan isku rida ha bixina fiidkii ha warwareegina haddii guryaha la idinku soo dhacay ay noqotay mindi barko mindi muxuu haydana qori barko naftaada badbaadi ragga Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kuwa dumarkooda dayacay waan u sheegayaa caruurihiina la idin dhaafiyo gabdhihiina yar yar reerihiina badbaadsado ilaashado harka cad wata la idinka wadanaaye habeenkii yumbiliis u soo hoyda ku soco saaxiib waxaan kaloo kuu sheegayaa walaashay macaanay inta la sheegayo oo la arkayo ama la maqlayo waxa ka badan inta qarsoon oo cabursan gabdhaha inta la abiyuuso oo qarsoon ma cadadna wala xisaabo waa iskoolada تعديال بدنا كدعو أي شقة أي قبر أدو تعديال بدنا كدعو قبلها ميل بك وينايان ميل والبو واكو عدبنها هذا دولتنا هذا لسنا ما قبنا أورور نعاوينا ما قبنا
ilaahay un baan suganaynaa milgooy allihina uuntay ما تشير ورا فرج الله قريب رجلها بيلنا فرج الله قريب ما أنت بهالك وما نفردنا صح قرتي معها وقال إن قرب يهيلي هو بيدين هاي وحلال وحندين قبان كرينا وحكى له هدانا نديكو هايلين إن عدك كان نديكو هيلي كرينا هدانا نحن تحوي نديكو تريك نديكو هيلي كرينا آدي آد أباي آدي آد والله aad iyo aadan kaaga mahadinayaa walaashay caaliyo waa dhageysta aadan uga mahadinayaa hadda waxaa waaye waa in naloo kaco waa in social media nalaga caawiyo waa in social media codkiina meel dheer gaaraya idinka Facebook yalayaal waa in gabdhihii xaqooda laga hadlo oo mawduucyo gooni ah noo diyaarisaan walaashay caaliyo waxaan ka codsanayaa waa qof wax bartay inay wacyigelinta ku soo darto dumarka xuquuqdooda iyo tacdiida loo geysto milga adigana aad iyo aadan ku mahadinayaa walaalay macaanto maalmaha soo socdana waxaan rajaynayaa dhalinyaro badana is abaabulayso in banaanbaxyo aad u waaweyn oo gacanta la darto inuu magaalada muqdisho ay ka dhacdaan rajaynaya idhageyso anigu taa mudaharaadka maanta waan rabay inaan ka hadla imikaanan ka hadlayaan bilaabaya please share garay asxaabta intayna daawanaysan haddii wax kale walaaladeen ugu hiilinaynin gacantiina ugu hiiliya inaad sheer garaystaan si maaragtay nabadooda loo sugo oo loo badbaadiyo loona caawiyo aan loona arag geerida xamda sheeko yaroo daraamo oo weelka lagu xasho maanta keliyaata berri toolana ilmo kale oo inaga mida ay ku dhacayso ama walaasheen oo kale la kufsanaayo wallahi inaanay ka tegin ta uur kale xitaa sheer gareeya waxaan doonayaa inaan idiin sheego anigu waan ogolahay peaceful protest wax la yidhahdo peaceful protest waxa weeye banaanbax nabdoon waxaan idin leeyahay boorarkiina qaata is abaabula buuq ma rabno caruuraha guryaha kaga taga waxaan ku idhi meel muxuu haydeenay taga barxada miidiyaha la sii hadla hogaamin baad u baahantiin ururada haweenka waxaad ugu baahantiin inay hogaamiyaan waxa weeye miidiyaha international miidiyaha oo dhan ayaa attention ka helaysaan waa la idiin soo ballamin karaa maalintaasi in maaragtay aad meel tagtaan oo aad soo istaagtaan oo la idin jirdilin oo adduunku document gareeyo maaragta oo la idin waraysto oo aad ka hadashaan dumarka Soomaalida daad tihiin ma rabno inta la idin jirdilo la idin qaraaco hooyo maskiinada daanka laga jabiyo gacan laga jabiyo lug laga jabiyo jeel lagu tuuro la hadido hadhoon hadii doonto maaragtay gurigeeda markay tagto la soo ogaado adreeskeeda oo maaragtay ciyaar suuqa daba tagaari kufsadaan ma rabno please sister please yeah iga gunta arrinkaasi ha noqdo yadiino ha noqdo peaceful dhiig baa dhagta la daraya waxa idinkama rabo nabad waxaad ku weydid laguma helo dagaal anaa idin sheegaya ma rabno in guryihiina la idinkaga daba yimaado oo la idin dilo caruurta iyo idinka la naga kin gumaado okay idinka idin danleen ma garat inta ku dadaala insha Allah abbaay biidnillah kariim waay abbaay gabdhaha kale jaanis siinaya insha Allah mahadsanid ila soo xidhiidh ii soo gudbi oo luuqa wax kasta information ka aan xidhiidhna walaalo aad iyo aad baan kuu salaamayaa xidhiidhna haddaan doono waan soo fariisanaya saa dambe haddaan doono waan soo fariisanaya markaan time helaba waan soo fariisanaya waxa weeye we need to talk about this waxaan hayaba waqti baa jira abbaay waxaan kaloo raacsanayaa maalin dhaweyd inaa maqasheen in kala mooji beedhabo rag oo ilmo yaryar saasoo kala farxumeeyey maxkamad lama marsiin milgo maxkamad lama marsiinin waa la soo qabtay labadani waa la iska soo dhex bixiyay dulmigooda tiirka la geeyay baasaa lagu harqaamay saasuu dhibaatada ay ku dhamaatay labadii nina la dilay baa la yiri way qirteen beedhabo waa beedhabay ka dhacday wiilka soo maaha wiilka la kufsaday miya soo la yiri way qirteen way qirteen waxba lama oday kama soo hormarin boolis ma soo dhex gelin maxkamad lama soo saarin dhibaatadii falkii lagu qabtay marqaatiyaasha waa la soo qabtay tiirka la geeyay waa la isdhaafiyay dhibaatadii waa ka baxday reer beedhabo okay waxa weeyaan kiiska waan arkay inamada iyadoo xaajiyad la saaray oo la kaxeeyay xitaa TV-da ka soo wariyay videoga inaan soo dhig qolkaygan u malaynayaa iyaga qirtay baa la yiri inamadaasi markiiba xukun sharciyo degdeg ah lagu fuliyay nasiib xumo waxa weeyaan arrinku markuu galo wiil wax lagu sameeyay gabadhi waxa loo arkayaa waa naag ilaahay wuxuu siiyey meel looga galmoon karaayo waxa weeyaan de waxa way naag bay u tahay way soo jirtay ayaa lagu moodayaa laakiin markay noqoto wiil waxa la oranayaa ma dhici karayso cashar baa la rabaa in loogu dhigo sababta in cashar loogu dhigo in gabadh la kufsaday iyo wiilka isku mid in markaaba maaragtay xukun la saaro la soo baaritaanka la baaro oo si xaqa loo baaro de xaq baa ugu leenahay wiil iyo gabadhba soo maaha waxaan ka codsanayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaan ka codsanayaa gabadhaas yarta 19 jirka ee xaqeed inuu keeno ragga kufsaday soo maxkamadeeyo
naloo fiirin qabiil iyo oday oo dhahayo diyaan bixinayaa already gabadha annaga weeba naga geeriyoota laakiin inaysan calaamad dambe nagu reeban iyo caloolxumo dambe ayaan ka codsanayaa abaay milga waan ku salaamayaa qadka gabdhaha kale u banaynayaa barnaamijkana sheergareeya gabdhaha ha soo galaan insha allahu abaayo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaashay ciliya caloolxumo wadaagtay wixii xaqiiqadii dhabtii ka jirtay maanta xamar muxuu ahaydeeney iminka waxay marayaan heer ay leeyihiin cadaalad ma aragno annaga lanagu soo socdaa guryahayga habeenkii baa lanoogu soo dhacayaa arrinkan runtii askarta soo gashay guriga muxuu ahaydeeney reerka ee hooyada iyo gabadha yarta iyo wiilka yar hurday hooyadii gabadha ay baxsadeen wiilka yaraa ay farxumeeyeen de waxa weeyaan waa kuwii amniga sugayay laakiin maaha lama odhan karayo waa askar saxsan waayo askar corrupted ayaa jira assalaamu calaykum askar corrupted ayaa jira waana la qabtay laakiin waxaan rajeynayaa insha allah in maaragtay horta kiiska xamdi iyo kiiska ilmaha yara wiilka yara 10 jirka aan la kala reebin oo maanta ka wiilka ayna degdeg inta u hor xukumaan ay ugu fuliyaan wax kasta dhagdhag ka dhigaan askariga maaragtay iyo kii baxsadayba maaragtay sharciga soo istaajiyaan xamdana keedayaan laga seexanin oo aanu noqonin hadhow toole wax qaboobayo cold case oo dhasku maaragtay faylkaasi uu meel ku cuno oo dad la iska ilaawo la yiraahdo dad baa la xirayo maxkamadda la jiijiyo waxa waa la ina daalinayaa moogta waa la ina daalinaya waa jiid shacbiga daalaya waa la iska ilaawaya ku kala cusub baa imanaya waxa la oranaya mid baa la dilay laba waxba waa lagu waayay kan waa la damiintay kan wuu baxsaday waxaas inama marayaan ma garata calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu fariimihiinaan yara akhriyayaa waan soo gabagabaynaya ciddii ra'yi haysa hadalka badan haan ma buuxsho waxa weeye intii ugu muhiimsaneed waynu ka hadalnay maanta iyo intii cusbay waxaan kaloo doonaya inaan idinla wadaago si degdega xubnaha baarlamaanka maanta runtii carabka ku dhuftay oo qaar badani ay ka yaxyaxeen oo yiraahdeen tacsina u direen reerkii xamda iyo dhammaan shacbi weynaha Soomaaliyeed meel walbay joogaanba oo runtii ka dhiidhiya aad uga xumaaday inaynu bal eegno sug aan eego waxa information soo baxa newski aaway waxay yiraahdeen kufsi 6 wiil oo hal gabar 6 wiil hal gabar kufsaday yimkan waxa ku leeyin 4 baanu haynaa waxaan la yaabinba bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan la yaabinba talabaad dalkii talaagada lagu hayo xitaa meedka ma jiro oo la baaro ma garanaysa markiiba meeshii waa la nadiifiyay mudday waxaan qaataan 10 saacadood dheeraad ugu yaraan ayaa meesha crime scene qof ma aragtay uu ku nafwaayay ama fal argagixiso dambi xun lagu galay ma aragtay la xiraa oo si kasta loo baara koona kasta sida inta dhas la mariyo iyo dawooyin la baara oo fingerprint iyo tin iyo ilig iyo wax kasta laga soo guraa ma garatay marka sidee u noqonaysaa in maaragtay markiiba meeshii la mayro oo meydkeeda la qaado oo la yiraahdo ku soco oo warqadeedii dhimashada muxuu ahayn cisbitaalka ka masaxo in la kufsado xitaa sidee sidaas xaq darro miyaan ahayn walaalayaal wax la qaadan karaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un talaadana ma jecelin nabarka in maaragtay qofka lagu soo celceliyo waayo waxaan hadeen ka hadlayno reerkeeni damqasho ay ku sii noqonaysa laakiin hadday calool xumo la seexanayaan dee runtay doonayaan at least in loo hadlo way doonayaan ma garanaysaa oo madaxdii la xasuusiyo in ay muhiim tahay in laga hadlo arrinkani oo dee la sugaayo ma garanaysa laga sugaayo ma garanaysaa tale iyo tusaalaba iyo inay wax ka qabtaan arrinkaniba oo ilaa madaxweynaha ay gaarsiiyaan wararkii baan eegayay sumar dhaweyd waan eegayay anyway baarlamaanka waan idiin soo gudbinayaa insha allah ka hadalka ay ka hadlayeen sug Somali News baan oranayaa qofkan aan ku celinayaan eegaya hadduu degdeg rabo inuu ra'yigiisa uga dhiibto iga daaya fariimaha hadii soo diraysaan because waad iga mashquulinaysan barnaamijka waryaaraheen anyway calaykum assalaam meel kasta aynu joogno Soomaali waa isku mid bay tiri safa wallahi waa runteed samsame waad mahadsantahay qalbiga aad iyo aad baad ugu mahadsantahay inaad warbixintaana siiso waxaan doonaynaa qof kasta oo dalkii jooga in uu soo hadlo wiil iyo gabadhba waad soo hadli karaysaa walaal meel cidla atag magacaaga ha sheegin
ha sheegin halka aad joogtid noo sheeg keliya inaad xog rasmiya hayso waana sheegi kartaa laakiin xogtaasi ha noqoto xog saxsan oo ilaahay kugu ogey waayo waxa weeyaan ma rabno annaga isku dirka ummadda muxuu ahaydeen dadkeena masaakiinta dalkoodii degan inaan isku dirno been abuur ma rabno cid ka faa'iidaysata ma rabno shalay toole qof waxa caayaya qabiil ba halkan soo galay waan balogoray waayo maxaad u caayaysaa qabiil inaad qabiil cayda ma aha inaad maaragtay haddii aanad toos u garanaynin sida inantaas ay ka hadashay oo kale dadkii kiiska gacanta tooska ugu lahaa ma garanaysaa ama xeer ilaaliye ama waaxda booliiska qofka ka mas-uulka ah aanad lahayn qofkaasi maaragtay cadaalad ayaan ka codsanaynaa khadra cali maxaad tiri waa sidii kuu sheegayso fariimihii baan dan ugu noqonayaa kiiska inanka yarka ah waan ogahay in degdeg loo xalinaayo muxuu ahaydana laakiin aad ayaan uga urur qabaa inaan yartaasi maaragtay kiiskeeda waxba loo qabanaynin already badbedelaadaasi calool xumo weyn 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 bay u keentay fariimihiinaan akhriya raalli noqda idinma ignoor garaynaaye عالية فرينتي هراء عالي أنا فريمي هراء كركي وي وذا دافين مر كدي بانو أخري دونا كوا ما عرفت ربشولياش إيه هنشبه يشلي ترى لها حتوان بكسرين عاي سوشيال كأجوكتو هدا يقع عاي هالكني ويصاب بدنا يعني هكور ورينا وحويا عقدة باهيسة محو هيديني مرة بان إن لقى هادلو وح الله عليه وحكو سابسن لما عاي حمر أنا دادو بشعل أنا كسو نولا ay mis xaafadayda hodan baan deganaan jiray shaleemay kwatooraan tegi jiray ma garanaysaa waxa weeyaan qofka moodaya inaan ma aragtay just because lahjadayda inaanay xamar waxba iga gelin sheekay kugu tahay sheeko ayay kugu tahay kawde marka waxaan leeyahay caadi iska dhigo cuqdada iska saara Soomaali way wada leedahay xamar وانا لسيك اللي يضد بديجان جارو لكن عاصمة دي وحوية الصوماليات إمي كانت دون يسألين ولي معركتي تدورن معركتي ميدايسو وولي اللي جود ده لا يو قف ولي بتطبق ميدوال بقى ماشي دونك أنت تشيد دون هذا الشيء تجي مركز تاسيان لقى ورور وحن دوني إن برا سك wasiirka waxbarashada na tacsiib uu ka dhigay haddaan eegayo wasiirka waxbarashada tacsiib ayuu ka dhiibay xagga barta facebookiisa oo xamdi reerkooda iyo shacbi weynaha ka tacsiileynaya arrinkan foosha xun leh aad baan maxamed ugu farxay taasi waayo waxa weeyaan iyadoo aynu ku jirna xilli farxad leh oo dhammaan dhalinyaradii Soomaaliyeed meel kastay joogaan dalkii ay ka graduate gareynayaan dadaalkii badnaay waxbarashadeed ay ugu soo jireen maaragtay inay ka mid noqdaan mujtamaca oo ay maaragtay dadkoodii diintooda wax u qabtaan in maaragtay maanta inagu farxadaasi ku jirna haddana inan yaro walaasheena laga soo afjiro mustaqbalkeedii yaraaye dee maaragtay curdanka ahaa ma garanaysaa maadaama wasiirku ka soo hadlay arrinkaasina aad baan ugu farxay xildhibaanada golaha baarlamaanka ee imika maaragtay hawshaasi u soo fariistay tacsida soo bixiyey ee sheegay inaanay cadaaladi jirinna waxaan leeyahay waan idinla ognahay waa dadaalaysaan laakiin dadaal ka badan intaas ayaan idinka rabnaa ma rabna oon inay noqoto flavor of the weekan wixii dhacay ya waa dhandhanaankii weeka maxaa jira warkii darayga ahaa oo kale inay sheekada noqoto maaha sheeko muxuu ahaydeenay weel lagu xasho waa sheeko seriousa naf baa lagu waayayaa waxa lagu waayayaa mustaqbal waxa lagu waayayaa ma garanaysaa de waa waxa weeye wax aad u xun qof maskiin oo walaalka ayaan kufsiga lagula kaco tan labaad waxaan doonaya inaan ka hadlo intaanan iloobin oh my goodness caadifad markay ku qaado waasa alxamdulilah inaan xasuusto waxaan kala talabaad doonaya inaan ka hadla intaanan iloobin dhalinyaradan ama raggan ama dadkan geysanaya ma raba inaan rag idhaahdo xayawaaniintan geysanaya falalkan waxshinimada ee kufsiga maaha dad hagaagsan waxay cunayaan xashiishad khamri cabayaan hadday doonaan damiir ma laha oo waxaan hore usoo sameeyeen waxay doonaan ha ku jiraanee qof miirkiisa hagaagsan yahay intuu guri islaameed soo jabsado rasaas la dhaco soo jabsado isagoo dareyskii xidhan oo qori sita uu soo galo miyuu ilmo yar ku dhex kufsan lahaa oo weliba meesha ku dhex gami lahaa seexan lahaa oo isagoo fuursan oo kale yaallo qaawan lagu qaban lahaa meesha yacni damiir xumada kaas waxay idin tusayaan qofkaasi qof hagaagsan bay ahayn ma garanaysaa wax nolosha ka dhacay ayaa kufsi wadareed ka samaynaya dad hagaagsanna maaha
inan baa ka hadlay shalay toole baraha bulshada si fiican isagana uga hadla oo yaroo dhalinyaro ah wuxuu yiri kaasi ma aha midaynu rajo ka sugayno isuga walaalo life baan weli ku jiraaye miyaan kugu sii daayaa asxaabta bes haddaba haye salaamu calaykum muxuu ahaydeenay taas waxay ku tusaysaa inaanu qofkaasi maaragtay qof hagaagsanyahay qofka waxaasi samaynaya tan labaad waxa weeyaan in maaragtay la sugo dhammaan amniga xuduudaha iyo eeriboodhada dalka oo dhan waayo waxa weeye dadkani waxaan maskaxdooda bedelaya ninkii jaadka cuni jiray yaa haddii uu helayo wax kasii daran ma garanaysaa uu hadda samaynayo uu nolosha ka dhacay muxuu ahaydeenay dee waxa weeye xuduud buu kasoo gelayaa eeriboodh buu kasoo gelayaa waa in la sugaa oo maaragtay mukhadaraadka dabagalka mukhadaraadka aadkaa la sameeyaa waa in maaragtay guryaha maaragtay baartiyada lagu sameeyo ee fawaxishta oo maaragtay la kontroolaa oo maaragtay dadkaasi meelahaas ay kasoo waalanayaan hadhow toole mujtamaca qaska iyo balaayada ula imanayaan in qofkii dhaqan xumo iyo edab darro maaragtay magaalada iyo suuqyada iyo qaska wada in laga qabto ummadda xaq baa loogu leeyahay oo tuuga xaafadda wareegaya dhacdhacaaya la yaqaana sarqaanka xaafaddaasi dhacdhacaaya luuqaasi habeen kasta midnight ka cabaadaya in la qabto la xiro weeyaan ma garanaysa oo ummadda laga qabto oo dhowr bilood xirnaado ma garatay yaa waa in wax laga qabta haddii kale waxa weeye mushkiladii caruurteennii bay hadhow cidlo ka helayaan ilmo yaroo luuq maraayo loo soo dirtay dukaan oo adeeg loo soo dirtay ayuu dhexda u fadhiisanaya qabsanaya ma fahantay asagoo maskaxdiisa ka maqan tahay ma fahantay hadhow tolna waa sarkhaansanaa weeyaan de waa sarkhaansanaa dembi kaama meeraysa waa lagu dilaya adiguna dil baa tahay marka inta aad miirka qabato haddaad programkan daawanaysid waxa weeyaan de waxa weeyaan marka adigoo sarkhaansan aad qof isugu walaalo marayaan aan kugu soo celini haddii qof adigoo sarkhaansan maaragtay aad qof dumar afar xumayso guri dhacdo ilmo yaraad far xumayso de waxa weeye ilaahayna kaama dhaafay ummadduna kaama dhaafaysoona lagu qaaday xeerkii ciqaabta tan labaad sheekh baa ka hadlayay golaha baarlamaanka ku jiray Soomaaliya maanta oo lahaa ma ogoli aniga sharcigan aad marba noola imanaysaan aad leedihiin caalamka ayaa diidan muxuu ahayn sharciga islaamka xeerka islaamka la isku xukumo ana idin tusaya asxaab isuga ana eegay dastuurkii isuga asxaabay in yar isuga yirakaadii businesskeyga oo dhan asxaabtii maanta way waalan aniguna day off ba malihi runtaan idiin sheegaya day off walla inaanan lahayn kowdhaha anaa maanta eegay dastuurkii Soomaaliya waa kan dastuurada muxuuna dawladaha Soomaalida oo dhan halkan ku jiraan kulligood online ku wada jiraan waad eegi kartaa ingiriisi buu kale ku qoran yahay let me see Somali constitution waa kani and let me see amendment badan wax la yiraahdo federaalka ma eegaayo download mar raba ii furwaryaa maanta dhan waan akhriyay download baan oranaya suga in yar suga constitutionkii waa kan qof kasta akhrisan karay akhriso ingiriisi haddaad garas akhriso waxa weeye xildhibaankaaga waxyaabo badan ayaad ka doodi karaysaayo xildhibaanadan ha furaan albaabadooda wasiir kasta ka Somaliland ka Puntland ka muxuu Soomaaliya ha fura albaabadooda shacabka u fura albaabadiina maalin u fura emailadiina u fura khaaska email khaasa mid walba caadil ah ha u furo ummadda islaamka ee Soomaaliyeed ay maamulaan sababta waxa weeye halkaas lagala soo xiriiri karaya qofka maskiinka dacwadiisa la duudsiyay kiiskiisa la bedelay ee dacwad khaldan la soo hordhigay miiskaaga ee lagu majara habaabin aakhirana lagu magaranaysa xukumaya adiga ilaahay ku weydiinayo waxa weeyaan inaad xafiiskaaga maalin u furta email la gaar u samaysa meel la idin kala soo xiriiraan ku samaysan dadka si maaragtay la idin la hadli karaayo shacbiga albaabkiina u furtaan maxaad shacbiga albaabkiina ugu furtaan oo eriyataan idinku eriyataan marka aad u baahantiin marka kalena aad la fariisataan oo u dhuumataan albaabada waaweyn ee gaanjeelooyinka waayiradu iyo aydu taalay askartu buuxdo u samaysataan ee la idin arki waaya ee faryar bixdu uga baxdaan dadka u fura albaabadiina waa kaas constitutionki waa kaas maasha Allah way soo dhigeen ma qarinayaan waxba ayagaa dajiyay iyagaa saxay iyagaa maalin walba ka shaqeeyo oo saxa waxa weeyaan inta kaliya ee aanan ku dhaliilaya waxa weeyaan inay albaabadooda u furaan dadka waa kan article 2 qofka akhri kara waa kan Islam state of religion Islam is the religion of the state of Somalia no religion other than Islam can be
propagated in the country diinta islaamka ahayn maaragtay laguma magaranaya maamulaya way macnaheedu no law can be enacted that is not compliant with the general principles of the objectives of the sharia that means already dalkii waa kaas u dheeri markaasaan waxa weeye aad masha Allah muxuu ahaydeen taa macnaheedu waxa weeyaan muxuu ahaydeenay mudanayaasha aqalka baarlamaanka iyo marwooyinka fadhiya waxa weeye shaqadooda in xeerarkaas u qoraan saxaan ka doodaan qaar cusub soo dejiyaan caalamka beesha caalamka faragelin badan ku haysa oo leh waxba diinta islaamka ku sameynina waa kale maanta ka hadlaayay wadaadkii xildhibaanka ahaa uu yiri anagu ma fahmayne waxaan oo dil iyo dhac iyo kufsi ay adnoola imanaysaan maaragtay maalin bal keenaayo war xeerkeeni caadiga ah lagu qaado markaasa xildhibaano kale is haysteen oo ay lahaayeen iyaguna dawladda ayaa dawladaha dibadaha iyo maaragtay international community-ga diidan marka anigu waxaan leeyahay mar walba markay noqoto xeerka dhaqanka qoyska waxa lagu saleeyo diinta islaamka dawladaheenoo dhan ha ku saleeyaan anigu taasaan mar walba taageersanahay waayo ma rabo taa haddii laga saaro dhaxalkii baa lagu qabsanaya ya xaqii ilaahay ku siiyo laguma siinayo muxuu ahaydeenay laguma siinayo muxuu ahaydeenay haddii gabar la kufsado maaragtay sharcigii ilaahay soo dejiyay mid ka fiican lama helaayo xeer jajab dhuumaalaysi goldaloolooyin bini'aadmi baynu nahay waxa weeyaan blind spots baa jira waxyaaba la yidhaha blind spotka meelaha madmadooga iskaga soo dhici karayo goldaloolooyinka waxaynu u naqaano ayaa soo baxaaya hadhow baa la odhanayaa waxa weeyaan ninkani wuu cabsanaa ha laga dhimo xukun waxa la odhanaya ninkan sidan u ahaa ha laga sameeyo sidan waxaa la odhanayaa maxay gabadha ayadaa tagtay waa laga been abuuranayaa ninka nin fiican weeyaan ma garata waxyaabo badan ayaa maaragtay goldaloolooyinkaasi ayaan aniga diidanahayba maaragtay inay soo baxaan waa kaas isagoo turjuman af soomaalina wuu jiraa soo arkaysaa maasha Allah way geliyeen waxay qarinayaan maaha waa shaqadooda maalin walba ku wadaan ilaahay ku garab galo ayagii baaba nafta loo keenaya oo markay ka soo baxaan aqalka baarlamaanka intaanay gurigooda tegin maaragtay nafta loo keenayo amnigoodii uu ku jira laakiin sibay dhaanta marka waxaan leeyahay dhalinyarada maskaxda le caqligooda saliimka yahay in maaragtay guurka lagu dhiirigeliyo mentorship in loo sameeyo oo maaragtay biliis qabyaalada iska daaya in dhalinyarada xafiisyada loo furo oo gabadha shaqo doonaysa aan la oranin horta gurigayga kaalay aan muxuu ahaydanay kula hadle oon gurigii lagu kufsanin dadna kadib shaqo la siinin waxa weeyaan gabdhaha waxaan leeyahay ninna tabtaada inuu taabto maaha oo uu shaqo maaragtay kugu kufsado wuxuu doona ha ahaado gabdhaha masaakiinta ee baahidu hayso ee dadkooda raba inay caawiyaan ee raba inay horumaraan gabar yar baa ka cabanaysay oo muxuu ahaydeen wariyanimo doonaysa ee laba wariye ay kufsaday kari gurinta igu yeedheen ma garat shaqan ku siinaynaa yidhaahdeen kaalay guriga ay kufsadeen ay kasoo hadashay videogeeda aan arkay waxa weeyaan gabdhihii tacadiga badana lagu hayo baahidii baa laga faa'iidaysanaya tii xero qaxooti joogtay waxa kufsanaya kii xitaa loo soo diray ee ka socday Amazon iyo meelaha ciddu doonaha aada askarigii Kenyaatiga kufsanaya tii dalkeeda joogtay gurigeeda loo soo dhacaya maskiintii yareeda dagaalka ku soo dhalatay dhexdiisa ee la badbaadinay la kulkulay la ilaalinay gurigii baa lagala baxay hadda gabadhan waxay tiri yartan xamde gabar kala wadatay oo aan ahayn asxaabta iskoolkeeda oo geysay meeshaasi ya ma fahanteen wayna dhici kartaa dumar lacag la siiyo gabdhaha soo shirqa walaa inay jiraan dumar fataaliina baa jira fataaliin baa jira oo gabdhaha yaryarka u geenaya ragga hadday doona iyagu nolosha ka dhacay biliis iska ilaaliya baan idin leeyahay walaalayaal u xidhnaada janalada hablaha walaaladiina ah ee ma garanaysaa online-ka ku jira qofkaad fikirkiisa iyo ficilkiisa ka hesho ku xidhnow fariimo u soo dir haddaad rabtid dhiirigelin iyo jihayn annagaa ku joogna wax halaaliya waxa aad doonaysid mar walba ku dadaal maaragtay inaad maaragtay noqoto midaan laga faa'iidaysanin mar walbana ogo haddii cid shaqo kugu ballan qaado guri cidla ah ha tegin xafiis cidla ah saacad aan la shaqaynaynin ha tegin qol lagu soo xirta ha gelin ma garatay yaa naag aanad garanayno aa ka warwarsan tahay oo yaaban tahay oo ku warwareejinaysa ha raacin ma garateen walaalayaal yaa rag un la eedaynin walaalayaal waxa weeye khaladaad badan baynu ku jirnaa dumar haddaynu nahay khaladaad badan baynu ku jirnaa oo naagta waxaasi falkaasi u kacday laftarkeeda gabadhaas yare la dilay in la sii daayo may ahayn sidee loo sii deynayaa in la sii daayo may ahayn intaasaan kaga baxaya billahi tawfiiq abaan soo salaamaya qalbigeena isku saliim weeyaan
muxuu ahaydeene dhiirigelin waxa iga ah inaynu garab siino gabdhaha walaaladeena dalkii jooga ee mudaaharaadayna waxaan leenahay mudaaharaad peaceful protest ah meel istaaga ballansada miidiyaha dowladda u sheega madaxdiina u sheega halkaa istaaga ilmo yar ha kaxaysaninoo dhagax tuuraaya ciyaala suuq ha soo urursanina ha u sheegina qaylo badan ha samayninaya sawaxan ma garanaysaa halkaasaad istaagaysaan boorarkiina la istaagaysaan waxa weeyaan taasi ayaa laguga badbaadi karaya in waxna laydinku qaban karaya haddii kale jirdil ciyaala suuq dhagax tuura ajadihiina idinka burburiya maraykan bay taasi burburisay Black Lives Matters movementkii mudaharaadkii caalamka ugu weynaa Black Lives Matters yaa ninka madow lagu dilay jilibka ya muxuu ahaydeenay Minneapolis Somalia halkii lagu dilay ha muxuu ahaydeenay waa tii ma garanaysaa caalamka oo dhan meel walba gaadhay ilaa Australia ilaa Ingiriiska gubtay magaalooyin dhan maraykankeeda la gubay peaceful protest bay ahaayeen suuqyada u dhaadhaceen laamiyaday tageen ciyaal baa raacay dad baa loo soo diray dowlado kale dad kale soo diray ya ma rabno walaalaan u sheegaya inantii hadda la hadlaya iyo hablaha videogan daawan doona iyo kuwa kasii dambeeya iyo kuwa maaragtay hadhow toola dooni doona inay buunbuuniyaan waxaan leeyahay peaceful protest baan idinla rabnaa nabad ayaad maaragtay ku mudaaharaadaysaan ballansada caruuraha ka taga maalintaasi ma garanaysaa guryaha caruuraha kaga imaada taga idinkoo nabad ah hub ha qaadanina u sheega dowladda xildhibaanadiina iyo sii wargeliya muxuu ahaydeene warbaahinta vow maxay ahayde Voice of America Somali BBC kuwa international kana siiba sii wacyigeliya oo sii wargeliya baan ka wada wacyigeliya maaha sii wargeliya inaad maalintaa tegaysaan oo aad si fiican u protest garaynaysaan dhagaxa tuurina askari idin jiiday muxuu ahayden hala dagaalamina sida arrinkiina kusoo nabad dhigta oo muxuu ahayden hala idin maqlo annagana wax naga ballan inaan sii gudbino oo aanu maaragtay aanan ka aamusin laakiin waxaan kaloo rajaynaynaa in maaragtay golaha baarlamaanka marwooyinka ku jira wasiirada haweenka wasiirada ah inay garab galaan agaasimayaasha waaxyaha iyo kuwa guudba inay dumarkaasi ma garanaysaa magaalada muqdisho ee doonaya peaceful protestka aananu ku dhiirigelinin inay galaan inaad caawisaan oo idinku hoggaanka koowaad noqotaan bartaas inaan loogu kala harin hooyo faqiira iyo gabadha wasiiradda inaad isku kaba ahaataan meeshooda taagaan